السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال إذا لهانتين بميل كستو دافها عالمك كجوجتان halkani waa qoraxay media kuna soo dhawaada barnaamij falanqeyn toos oo idinkaga imaanaysa xarunta studio-ga ee qoraxay media anigu waxaan ahay Mustafa Maxamed Cilmi sidoo kale waxa ila jooga gudoomiyaasha xisbiyada siyaasadda ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale aqoon-yahano kamid ah aqoon-yahaniinta dowladda barnaamijkan waxaan ku falanqeyn doonaa oo falanqeyn toos ah kagu qaban doonaa sababaha iyo falanqeyn la xiriira sababaha ay u tashan laadahay shacabka dowlad deegaanka Soomaalidu waa barnaamij toosoo idinkaga imaanaya qoraxay media waxay la jooga gudoomiyayaal tan xisbiya siyaasadeed waa gudoomiyaha xisbiga FEB Sheekh Ibrahim Dheere afayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Cabdiqaadir Xasan Biixi Cadaan Hirmooge iyo sidoo kale Mubaarak Sheekh oo ah xubin sare oo kamid ah xisbiga BB ahna gudoomiyaha garabka sixitaanka iyo sidoo kale aqoon-yahan Caqiil Sheekh kurtigiin waan idin soo dhaweynayaa soo dhawaada tabinteena tooska iyo sidoo kale waad kuna mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan tabinta toosta ee qoraxay media gudoomiyaasha iyo sidoo kale aqoon-yahaniinta ku soo dhawaada barnaamijkan tooska ee qoraxay media waan doonahay aad baa mahadsantahay aad baa mahadsantihiin ajibida iyo sidoo kale ka qaybgalka barnaamijkan tooska ee idinka imaanaya qoraxay media waxaan bilaabanaynaa si aan barnaamijkeena toos ugu bilowno waa falanqeyn maxay u tashan laadahay Soomaalidu maadaama oo aad tihiin dad hay Cabdiqaadir Xasan Biixi maadaama oo tihiin hogaamintii shacabka iyo sidoo kale maadaama oo tihiin hogaamintii iyo gudoomiyaashii xisbiyada shacabka iyo hogaamintii aqoon-yahantii falanqeyntan tooska ah waxaan ku bilaabi doonaa gudoomiyaha anagoo siinayna hadalkiisa hal daqiiqo oo soo dhaweyna gudoomiyaha xisbiga FEB Sheekh Ibrahim Dheere ku soo dhaw Sheekh Ibrahim qoraxay media hal daqiiqo oo jawiga guud ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale aragtida kooban ee xisbiga iyo soo dhaw gudoomiye muudka iska qaad gudoomiye muudka iska qaad adoo mahadsan waan dhownahay aad baan idinka mahadcelinaynaa baxda qoraxay sidoo kale dadka na fiirsanaya iyagana waa u mahadcelinaynaa deegaanka Soomaalidu maanta marxalad wuxuu marayaa la dhihi karo ma aha marxalad u fiicnaa haddii la fiiriyo xagga siyaasadda haddii la fiiriyo xagga dhaqaalaha haddii la fiiriyo xagga arrimaha bulshada intaba ummaduna waxay leedahay madax ummaddu iskama tashato 8 milyan oo qof intay isu yimaadaan ma tashadaan ummadda waxaa u taliya dad siyaasiyiin iyo dad madaxa dadka madaxdii hadday ummadda jihayn waayaan de meeshii tala la'aan baa soo baxaysa madaxdana lama wada aha qaybaa laga kala yahay laakiin qaybta u muhiimsan waa hogaaminta sharciga ah ee waddanka ka jirta qaybtaasaa marka la rabaa in ay isugu yeedha qaybaha kala duwan ee siyaasad leh ee bulsho leh ee dhaqan leh ee qaran joog leh ee qurba joog leh markaasaa waxaa soo baxa aragti la yidhaahdo Soomaalida tashatay ama tashanaysa taa haddii la waayo sidanan hadda ku jirno oo kale un weeye Soomaalidu maxay u tashan la'dahay marka meel la qabta male ereygaasi waxaan leenahay hogaamintii ummaddan jihayn lahayd waana garanaysaa waxaa la yidhahdaa annaasu calaa diini mulukihim dadku mas-uuliyiintooda waxay aaminsan yihiin unbay iyaguna aaminaan oo wax u ah waxaan aaminsanahay deegaanka Soomaalidu inuu tashan waayo waxaa keenaya booskaasaa bannaan oo ka gabay booskiisii laakiin ummaddu ummad xunna ma aha siyaasiyiinta iyo axsaabta kale ummad xun ma aha laakiin hogaaminta meesha joogta waxay tahay hogaamin aan dadka jihayn karaynin halkaasaynan waa mahadsantahay gudoomiye adigu waxaad ka mid tahay hogaaminta dowlad deegaanka Soomaalida sidoo kale waxaad tahay gudoomiye xisbi waan kugu soo noqon doonaa barnaamijkeenu wuxuu daarada saarayaa idinkuba qayb ayaad ku leedihiin shacabka dowlad deegaanka Soomaalida oo waxaad tahay gudoomiye xisbi awood badan Cadaan Hirmooge afayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ku soo dhaw hal daqiiqo oo arar ah kooban la fahan aad aaminsantihiin aragtida sababta ay u tashan laadahay ummadda Soomaaliyeed barnaamijka dib ayaan ugu soo laba noqon doonaa mid walba daqiiqado ku filan baan siin doonaa laakiin hal daqiiqo oo arar ku soo dhaw muudka iska qaad Cadaan Hirmooge bismillaah
aad baan u salaamayaa bahda Qorraxay Media iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee daawan doona ama daawanaya iyo ciddii fikradan maartay in madaxda iyo waxgaradka laga hadliyo soo aliftay aad baan ugu mahadnaqayaa. Dadweynaha Soomaalida uma ayna baranin inay tashadaan. Maxaa loo haystaa hadday tashanayaan? waxa weeye waxa lagala diriraya waa tashiga. waxa ay u halgamayeen inay helaan waa tashi. waxa laga hortaagan yahay waa tashi. maamulka ay Itoobiya dhisto unba u xil saaran dadka Soomaalida soo tashan. welina kiiba fulinaya. dadka Soomaalida ayna tashanin fadhiidka meesha fadhiya kolba ragna habadka waxa nooga dhigay waa hangoolada. murtidoodan baa ahayd. dadku habad ma noqdeen hangoolada maamulka loo dhigay hangoolada abaa diidan in dadku tashadaan. marka umaan ayna baran dadkan inay tashadaan oo golayaal iyo baarlamaano iyo xisbiyo iyo fagaarayaal kulmiya iyo hay'ado isku xidho badan ma ayna soo lahayn inay samaystaan waa lagala diriraya. Allahu musta'aan soddonkii sano u dambeysana arinta haddana tiin baa socota. marka waxay ahayd maanta inay sida ummadaha kale ee Itoobiya hadda sheegayso ummaduhu waxbay ku kala duwan yihiin. Itoobiya waa la wada haystaa ummadaha laakiin iyagu qaar way tashan karaan, waxbay diidi karaan, waxbay qaadan karaan, waxbay la diriri karaan, waxbay iska dayi karaan. go'aankooda space bay haystaan. dadka Soomaalida waxa weeye iyaga waxa weeye way iska jiidan yihiin, waa jiidantihiin ma hadli kartaan. waxa u xilsaaranna waa maamulka weeye laakiin inay derbiga jabiyaan weeyaan. waa maasantahay Cabdiqaadir Xasan Biixi Cadaani Hirmooye. waxaan ognahay ONLF in ay qayb libaax leh ka qaadan karto in ay Soomaalidu tashato, xubno badanna ay ku leedahay, sidoo kalena urur gobonimo doon oo muddo badan soo hogaaminaya halkan gobonimo doon ay ahayd oo ayada laftirkeedu qayb ka qaadanayso oo lagu dhaliilayo in ay qayb ka tahay sababaha loo tashanaayo. waan u soo noqon doonaa barnaamijka, sidoo kale su'aalahan ka weydiinayna. waxaan markan siinayaa gudoomiyaha garabka sixitaanka BB Mubaarak Sheekh. gudoomiye Mubaarak, hogaankii hore ee nabadgelyada cidda aan garanaynin, hogaankii hore ee nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida markii uu dhacay isbedelkii ugu horeeyay hogaankii nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida ahna xubin xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad deegaanka Soomaalida. soo dhawow Mubaarak Sheekh, aragtaada maxay u midoobi laadahay amaba ay u wada tashan laadahay Soomaalidu, sababta keentay? sidoo oo kale idinku xisbiga talada haya baad ahaydeen, bal soo dhawow aragtaada iyo waxa sababaha uu salka ku hayo. waayo bismillaahir raxmaanir raxiim. markuu wareysa baada Qorraxay waan salaamayaa iyo ragga martida ka ee kuwa barnaamijkan iyo dhammaan muxuu ahaa bulshooyinka daawan doonta. waxaan jeclahay arrintan wada tashiga Soomaalidu wax hadda soo bilowday ma aha. waxaan u salaynaynaa laba qaybood baan ka dhigayaa. Soomaalidu dhaqan bay lahayd, walaalay ahaayeen, wax kasta oo dhacay iyaga muxuu ahaa arrintooda xallisanayay. waxaa saamayn ku yeeshay markii ugu horreysaba dowladihii iyo xadaradihii ilbaaxnimada samaysmay baa muxuu ahaa yaa saamayn ku yeeshay. waxaana yaraaday muxuu ahaa awooddii dhaqameed baa yaraatay. marka waxaan ka soo qaadayaa 1991 wixii ka horreeyey deegaanka Soomaalidu wuxuu ahaa meel dagaal ka socdo oo xoog lagu haysto ahaa. laakiin markii laga bilaabo muxuu ahaa 1991 isbedelkii dhacay waxyaabaha ay Soomaalidu u tashan laadahay waxaan ku sababeyn karaa waxyaabo fara badan. waa midda koowaad ee cadaadiskii gumaysigii soo jireenka ahaa oo dadka had iyo jeer ku qasbi jiray inayna wada tashanin, inay noqdaan dad muxuu ahaa iyagu la kala qaybiyo oo u adeegta qaarkoodna u adeegaan muxuu ahaa dowladda markaa jirta, kuwa kalena ay noqdaan kuwa cararo ama dagaalamo ay noqdaan. waxaa kaloo jirta iyada laftigeeda faragelin siyaasadeed baa jirta oo ama dalka ha noqoto ama dibaddaba ha noqoto. arrimo jira ahayd oo dhihi karna Soomaalidu maxay wada tashan waayeen. waxaa kaloo iyada jira laftigeeda maamul xumo fara badan oo laga bilaabo xilliyada ilaa hadda soo socday. dadkuna qaybo badan buu ku leeyahay runtii in cid kaliya la saara ma aha.
lana yidhaaho ciddaasaa muxuu ahaa mas-uuliyadda iska lahayd systemka iyo nidaamku maanta mid samaysmay ma aha 1991 buu muxuu ahaa soo bilaabmay ilaa hadduu soo gaadhay waxyaabaha markaan isleeyahay iyaga laftigoodu maamulada jiray oo sidii la doonayay ummadda aan ugu adeegin oo aan iyaga laftigoodu muxuu ahaa dimuqraadiyaddii iyo saaxadda siyaasadeed aan ballaarinin iyo deegaanka laftigiisa oo dagaalli iyo dhibaatooyin ay ka jireen kuwaasoo keeni karaya laftigooda in dadka la cadaadiyo oo la dhibaateeyo waad mahadsantahay gudoomiye mubaarak waa mahadsantahay shan daqiiqo ayaan dib mar labaad dad u hoosin doonaa isla su-aashan oo qof walba iyo aragtida xisbigiisa iyo aragtida hogaamineed aan u siin doonaa uu ku falanqayn doonaa shan daqiiqo oo saddexda xisbi siyaasadeed markan waxaan u wareegayaa aqoon-yahan caqiil oo ah speaker qayb ka mid ah barnaamijka qoraxa media waa aqoon-yahan ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee khabiirada u leh arrimaha falanqayn arrimaha tashiga iyo midnimada soomaaliyeed sidoo kale waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo daraasadeeya arrimaha siyaasadda caqiil soo dhawow adigu xisbi siyaasi ama tiidsi bulshada daawanaysa qoraxa media ay ola socdaan waxaa tahay adigu aqoon-yahan soomaaliyeed kana madax badnaan siyaasadda axsaabta balse ah aqoon-yahan aragti u leh arrimahan midnimada iyo sidoo kale arrimaha community-ga bal ku soo dhawow arartaada adiga barnaamij gooni ah nidaam gooni ah baan kuu siin doonaa su-aalaha arartaada ku soo dhawow sababta ay soomaalidu barnaamijkan waxan ka qaldan ee salka ku haya axsaabta siyaasadeed iyo sidoo oo kale nidaamkan jira maxaad ku salayn kartaa ayaku adoo dhegaysanaya aragtida saddexda gudoomiye bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantiin qoraxid media aad iyo aad baad umahadsantiin waxaan kaloo mahadcelinaya dadweynaha daawanaya runtii barnaamijkan iyo su-aashaas waa wax aad iyo aad muhiim u ah mawduucan marka laga hadlayo saddexda mas-uul ee meesha fadhida iyo xogogaalnimo ugu filan bulshada inteeda kalena dee xogaal way yihiin oo wax wadana ka warqabaan laakiin si hoose mas-uuliyiinta meesha fadhiya waxay ku hadlaan caqabadaha hortaagana suurtagal ka dhigan in ummaddu tashatay wax iska ogaato yaa wax badan ka sheegi karaya dee dadka kale ee mandiqada u dhashay odayaasha aqoon-yahankuna war way ka hayaan bulshada soomaaliyeed ee deegaanka soomaalida waqtiyo fara badan bay soo marta kala duwan marxalado kala duwan marxaladuba marxalada kale way ka yara duwan tahay laakiin waxay ka midaysan tahay in aanay aragtidooda iyo ficilkooda midna aanay xor u ahayn way ka midaysan yihiin marxaladuhu haba kala duwanaadaan marxaladda ugu ka duwan marxaladaha kale oo dhan een horey noo soo marin xilli hore 19 wixii soo horreeyay muddadan dhow waxay isbedelkii hadda dhacay muxuu ahaa oo abi axmed xukun qabsaday jabhadda wadada xorriyadda ogaadeen inay heshiiska qaatay waddanka gudihiisa soo gashay isbedelkaas wuxuu sababay gudoomiye mubaarak mudgal gudoomiye mubaarak يعني isbedelkaas wuxuu sababay dad fara badan oo aqoon-yahan ururadii bulshada ururadii xornimo-doonka dagaalamaya dadkii khubarada ahaa odayaashii indhaargaradkii dhammaan gudaha waddanka isugu yimaadaan markay isugu yimaadeen waxa kaliya lagama maarmaanka ahaa ama muuqday ama marka miiska yaalay wuxuu ahaa ummaddu inta isu timaado waddanka gumaysi ku jiray gumaysi waa lagu jiraa laakiin isbedel baa dhacay isbedelka isaga sidaan ula jaan qaadi lahayd sidii yani dhibkiisana looga nabadgeli lahaa wixii fursadii jirana looga faa'iidaysan lahaa waxaan hubaa marka halkaa maraysa dadka aqoon-yahanka ah iyo ururada intooda badan yani arrintaa in inti la isu yimaado oo la wada tashado axadii la isku og yahay in la samaysto dabeetana ay xukuumaddu sidaa ku hogaamiso iyaguna ay taladana kala qayb qaataan wixii wanaagana lagu taageero wixii ka khaldanna maarta laga toosto si diyaar u ahay arrintaa laakiin markii lasu soo ururiyo waxaweyaan xaqiiqadu siduu sheekh ibraahim sheegay annaas cala diini mulukin waxay arrintaasi ka cifan la'dahay oo kaalinkoodii gabay oo aan shaqadaa qabsanaynin hoggaanka dheedda lama wada laha hoggaanka dalka ama hoggaanka deegaanka soomaalida maanta mas-uulka ka ah ayaan talana soo jeedinaynin talana qaadanaynin dad kalena gaar u tashadaan aan ogolayn cid kaloo anigu eeddaa wax ka saaraya ma jirto mujtamaca deegaanka ku nool waa mujtamac markaad u fiiriso inuu hoggaansamo oo madaxdooda ka dambeeyo oo wixii wanaag ay ku taageeraan diyaaro intaa ka arkay anugu marka anigu waxaan aaminsanahay eeddaa lama wada laha waxaa iska leh hoggaanka waddanka u taliya hoggaanka deegaanka soomaalida maanta u taliya ayay ka cifan la'dahay laga wada tashan laayahay tala aan keenaynin tala aan raacaynin in la tashadan aan ogolayn intaasa marka anigu aaminsanahay waa mahadsantii
maqlaysaan baan u malaynayaa muddaan ku weynayd muddaad meesha ka maqnayd meeshan joogay buu roob helay raalli ahaada roob baa soo daayay meeshan joogay roob baa daaya marka satellite-kii waxbaa baxbaxaya iga raalli ahaada bulshadana aad baan u raalli gelinaa roob baan helaya marka cillad xagga roobkaa jirta oo la xidhiidha haddii uu roobkaas yimaado oo barnaamijku sii socon waaya barnaamijka caqiil oo speakeran yaa xidhiidhin karayo aqoon-yahana sheekh ibraahim dheere ayaan markan dib ugu celinayaa sheekh ibraahim si fiican ayaad ii maqashaa baan u malay si fiican ma kuu maqla 4 daqiiqo ayaan ku siinayaa anigaa kuu tirinaya xaggan waa 15 16 daqiiqo oo toos ah ayaan hadda hawada ku jiray waxaad ahayd dadkii ka shaqeeyay isbeddelka siyaasi rugcadaa oo muddo badan deegaankan siyaasaddiisa ka soo shaqaynayay sidoo kale waxaad xilliyada qaar soo martay la talin madaxweyne oo intuu isbeddelku dhacay ah waxaa tahay khabiir u leh arrimahan aynu falanqaynayno maanta bal especially idinka ka ahaan xisbigaaga doorka aad ka qaadan kartaan inay bulshada la mideeyo caqabada idin hortaagan iyo sababta xisbigaaga iyo xukuumaddu ay aragtidooda usii kala fogaanayso iyo sababta loo midoobi laayahay intaa israacso waad mahadsantahay guddoomiye runtii shacabka soomaalida deegaanka soomaalidu waa shacab la rabaadeeyey baan dhihi karaa oo 30 sano ee tagtay haddii wax la barayba waxaa la baray hoggaansanka qasabba ha lagu baro sideedaba shacab midayntiisu ay dhib badan kaa qaadanayso maaha waa shacab iska diyaarsan annagu markaan nimid axsaabta siyaasiga haddaan nahay oo hadda 4 jir la sii wada gelayo ama 3 sano hadda la wada gaadhay bilowgii koobaad aan qaadanayba wuxuu ahaa mashruucan ugu magac daray axdi deegaameedka waxaan ku soo qornay 12 qodob oo mucaarad iyo muxaafid bay naga dhaxeeya hawshaas annagii ONLF baa wada diyaarinay labadanadii waa isla saxiixnay xisbul xaakimkaan ula tagnay waxaan idhi walaalayaalow waxaan waan ka midaysannahay wixii kalena waan u tartamaynaa waxyaabahan ka xusuusta waxaa ka mid ah luqada diinta xuduudaha amniga maxay ahayd qabyaalad la dagaalanka waxyaabo badan oo noocaas oo kale ah hawshii nooca ahayd annaga labadii xisbi isla soo qaadanay xisbul xaakimkii waa naga diiday waxaan u malaynayaa muddo sanada baan daba soconnay isla iyadii waxaa qaaday wax u dhow markaan annaga ka samirnay rag aqoon-yahan ahoo iyagu isqaamay oo shacabka ah oo ilaa maantaba shaqaynaya oo uu og yahay afhayeen caddaani oo anaga iyo isagu iyo in badan aan ka qayb gallay nimankaa dadaal bay bixiyeen dowladday u tageen dowladdii markii way soo dhoweysay warkoodii guddi baa la qabtay anigii iyo caddaani isagoo isna ururkiisa ka socdaan ururkayga ka socda waxaan u malaynay ilaa dhowr iyo 10 shir baan ka qayb gallay oo lagu diyaarinayo markii gebagabadii la joogo laleeyahay shirkii ha la qabto iyo dowladdii degta kusoo dhufatay tidhi fikraddii mucaaradkaad wadaan marka runtii annaga haddaan nahay axsaabta ama xisbiga annaga ama axsaabta kaleba maanaan gaabinin sida ummaddan loo midayn lahaa waxaanu u fakarnay hab xisbi maanaan u fakarina hab qowmiyadeed baan u fakarnay maxaa yeelay oromada axdi deegaameed bay samaysatay amxaarada axdi deegaameed bay samaysatay annaguna axdi deegaameed samaysanaan rabnay wixii kalena aan u tartanno maamulkii meesha joogay yaa hawshaas hor istaagay haddaan anagu keennay iyo haddii markii dambe shacabku qaadeenba intaa mayna ku daynina madaxweynuhu uu khudbeeyo wuxuu yidhi waa in la kala adkaado bal weligaa miyaad aragtay qofkii hoggaaminta ahaa oo shacabkiila waa in la kala adkaado intaa haddana mayna ku daynine axsaabtii bay kala jejebiyeen anuu hadda xisbigayga ilaa 2 jeer bay kala jejebiyeen oo TV-ga la geeyey SRTV-ga dowladda ninkii guddoomiyaha aniga iga horreeyey oo si sharci ah xilka wala wareegay in laga hadliyo oo la yidhaahdo waxaa dhahdaa waxaan waxba kama jiro de ONFna lagaaga sheekayn maayo intaa laguma daynina qabaa'ilkiiba haddana la kala jejebiyey oo qoys baa loogu dhiibay qabandi iyo qabale iyo inta wax loo adeegsaday iyo qoysaska oo dhan madaxa la isu geliyey marka anigu waxaan isleenahay axsaabta iyo xukuumadda meesha ka talisa iyo shacabku midna ma kulmi karo maadaama oo qofkii lagu kulmi lahaa uu leeyahay aan kala adkaano caqabada maanta na hortaagan aniga qiimaynteeda caqabo federaal ma aha federaal faragelin way lahaan jireen dowladihii abiya ka horreeyey maanta wax xeer federaala ma ahan wax gobol nagu farageliya anu waxaan aaminsanahay inay yar tahay systemkana waan ka soo shaqeeyey $500 milyan aan helaynay budgetka meeshaan ku bixinayno cid nagu faragelinaysaa ma jirto sidaa darteed waa kala dhoofinaya xataa maxaad u dhoofinaysaan lama yidhaa
amniga naga iyo anaga dhexdayada saan u maarayna cid inaguma farageliso axsaabtanada saan u midan lahayn cid inaguma farageliso laakiin meeshii hogaamin waxaa joogta wax kala geysa ee wax soo ururinin caqabada marka waxaan leeyahay waa maasantahay gudoomiye caqabada salka ku haya ee ugu dambaysta marka waxaad leedahay waa hogaaminta khaas ahaan wadanka u talisay xukuumadda yes taa weeye shacabkiina iyadaa isku diraysa axsaabtiina iyadaa kala jejebinaysa cahdi deegaameedkiina iyadaa diidan laakiin idinku xisbi siyaasadeed baa tihiin xilliyada qaar barnaamijyada aad soo bandhigaysaan ayagu waxay idinku dhaliilaan mar walba idinku inaad ballanta ka baxdaan haddee runtii waa taayadoo annaga makhraati bay leedahay toodu makhraati ma leh waxaan arkaya madaxweynaha oo maalin dhoweyd leh musiiba quutayaasha runtii ninka doorashadii dhammayd ee ummaddu halbeegga u ahayd cadaaladda iyo isu-imaatinka ku shubtay haddana abaarahaad ogeyd waxba ka qaban waayey 200 milyan ee loogu talagalayna doorashada kaga galay haddana sicir bararkaad aragtay lacagtay dhoofinayeen ay samaysay kadibna ku khudbeeyey waxba kama qaban karno qofkaasi takarta isaga saaran ma arko marka hadalka anagu intaasoo makhraati baan u haynaa waxay sameeyeen inaan axdal deegaameed keennay inay diideen intaba anagu makhraati baan u haynaa laakiin iyagu makhraati ma hayaan baan dhihi karaa maasantahay gudoomiye arrinta sixir bararka su'aal dulmara baanu mar ka samayn doonaa dibna waan ugu soo noqon doonaa 5 daqiiqo 2 daqiiqaad ku darsatay cabdiqaadir xasan biixi cadaani hirmooge afayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya jawxo soo dhawow mar kaleeto ONLF xisbi siyaasi ah jabhad muddo soo dagaalamaysay maxaa caqabad ah oo jira oo hortaagan baad isleedahay in la tashado in la midoobo in isku aragti guud la qaato su'aashan maalin dhaweytana waan ku weydiiyey isla barnaamij halkan ay ku dhimaadnay marka ONLF ahaan door maxaad oga qaadan weydaan arrintaas maadaama xaalad adag ay Itoobiya ku jirto oo aan xukuumadda iyo xisbiyada siyaasaddu ayna suurtagal ahaan karaynin in ay xaaladdu jiq isku ahaato maxaa taagan door intee leeg baad ka qaadan kartaan mise maxaad mar hore oga qaadan weydeen bismillah waxaa jira horta arrintaas sababtaanu nabadda u qaadanay aynu jigjiga u nimid dadka Soomaaliyeed inay tashadaan oo kala qaybsanaanta ka baxaan bay koox halgamaysa iyo koox bud ah oo Itoobiya u isticmaalaysa meesha inuu ka baxo moogto koox Soomaali oo madax bannaan ama dan Soomaaliyeed ku dhawaaqaysa iyo koox ka soo horjeeda inaga maxay naga khaldan in la yiraahdo maxaa Soomaali ahaan maxaan qabsan karaa in la yiraahdo inaan lugaha isku duwan hal mar inaan isku dayno inaan maartay inagoo isku duuban aan qadiyadeena wajahno iyadoo nabad ah iyadoo Itoobiya lala doodayo haddii Itoobiya waalato iyo haddii miyir qabto inaan sidaa kaga qayb qaadano hadafka jabhaddu baa sidaas hadafka ururka sababtii loo soo galna taas sida hadda Sheekh Ibrahim sheegayo waxaan ku baaqnay in shirweyne qaran Soomaaliyeed la qabsado oo waxaan socda iyo isbedelada geeska Afrika iyo kuwa Itoobiya iyo duruufaheen wada tashi inay amrayaan inay farayaan inuu damiirka iyo dadka iyo baahida iyo cabashada inay wada tashi dalbayso yaa soo baxday ururka ONLF inagu yeynaan kaliya qabanay xisbiyadan la wadaagnay xisbiyadan isla qaadanay waxay kaloo ka kala timid markaan arrinta anagu xisbi ahaan soo kooxo kale oo waxaa yimid iyagana sidaas aaminsan koox haldoon liyaado oo dad aqoon-yahan oo urursaday ah kooxdii muxuu ahaa golihii duqeyda oo iyagana yiri shirweyne in la qabtaa fiican qolada liyaado aqoon-yahanka deegaanka dalada aqoon-yahanka deegaanka oo iyagana shirweyne qaran baan u baahanahay wada tashi waxaa yimid dareen aan wada tashanna la yiraahdo markaasaa xukuumadda iyo xisbiga talada haya ay soo dhexdheen waa sidaad sheegaysaan waa idinla qabanaynaa oo annaga maal gelinay halkii ruqa ninkii lahaa ku taagan yahay ma kacdo ruqa waxaa la yidhaha neefka kici waayey moogta marka haddii ninkii rabay inuu ninkii lahaa hasha ila qaada yidhahdo hadduu hasha asagu saynta kaga istaago markii la qaadayo ma kacayso marka qolada xukunka joogtaa diiday guddigii qabanqaabada oo xabad ay xisbiyadu ku lahaayeen oo dad aqoon-yahan oo badan iyo golaha odayaasha intiisa badan ka yimid halkiiba fadhiid ku yahay
dhinacna uma socdo muxuu la socon leeyahay xukuumaddana baa diidan anigu Ethiopia inaan tashano ma jeclo sababtoo wax samaystay dhihayd maama maxay uun koofiyad noogu xidhaayadu koofiyad samaystay dhihayd koofiyadaha laynoo xidho dhan iyadaa keentay inaan iska tuurana ma ogol afayeen laakiin saldhigga ururka ONLF doorka uu ka qaatay ma door mucaaradnimo in ay bulshadu midowdo mise door iyo door urur halgameed doorka uu ka qaatay sababtu mise xukuumaddan hortaagan Sheekh Ibrahim wuxuu sheegay in xukuumaddu hortaagantay idinka intan oo urur xisbiya xukuumaddu hor istaaga idinku samaysay odayaasha haddaad sheegteen freezin lagu sameeyay ma odayaasha idin diiday ma shacabkii baa idin diiday mise xukuumadda tiri idinlama midoobeyn maya waxa weeye waxaan go'aansanay inaan dhaqaale shacab iyo dhaqaale xisbiyo iyo kooxaha lacag lagu qoro dawladda shaf garacdo anaga kharashka bixinayna dadkii gobolada iyo xisbiyada iyo ha laga keeno dadka madaxa bannaan farsamada idinku sameeya anaguna dhaqaalihi waan bixinaynaa bay dhaheen marka hawshii ay xisbiyadu iyo samayn lahaayeen dadka muxuu ahaaye aqoon-yahanka maaragtay saamileyda ee saamaynta leh ee dhaqaalaha iyo taladoo ka imanaysay inaanu qaybino oo gobolada iyo u qaybino ururada iyo ganacsatada iyo xisbiyada iyo saasaan ayaan la diyaariyey marka xukuumaddiiba ayaa ka dhex martay waxaa kaloo jira yani xisbiyadan iyo dadweynuhuba rajo waxaa la geliyaa in dawladdu maal gelin karto shirkaas oo shir weyn oo qaran oo la wada taageero u noqon doono haddana hal sanuu jiitamaya marka 3 sanaan joognay hal sano shir baa lagu mashquulsanaa inuu dhaco iyadoo wax kale lagu kala duwan yahay boqolkiiba inta badan la isku raacsan yahay xataa in inta muqaddas laga dhigo la wada hayo inta inay ka soo baxdo marka niman meeshan oo haddii dadku tashado cabsan oo haddii la isu yimaado cabsan oo hadduu fikirku xor noqdo cabsan oo haddii aqoonyahanku afka saara cabsan haya yaa bur meesha la taagan sidaa weeye marka eedaadu waxay salka u soo dhacday xukuumadda ayaa hor istaagsan waa maasan tahay afayeenka jabadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jawxo waan ku soo noqon doonaa mar kale barnaamijku si uuna inoogu dheeraanin raalli idinka ahaada 7 daqiiqo waan ku caburinayaa mubaarak sheekh hogaankii hore ee nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida xubin ka mid ah xisbiga talada haya ee BB ahna gudoomiyaha garabka sixitaanka suudow gudoomiye Cadaani Sheekh Ibrahim Mudgala soo dhow iyo caqiil soo dhow gudoomiye bal aragtaadii iyo sidoo kale waxa salka uu ku hayo isku imaansho la'aanta xisbigiinii iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed waxa door u ah adiga ka khibrad ahaan aad u leedahay xilligaad xukuumadda ku jirtay hoggaanka ay sababihii haddii laga shaqeeyay halkii marayeen soo dhow 6 daqiiqo aad baa u mahadsan tahay bismillaahi raxmaani raxiim horta markii uu isbeddelkan dhacay xukuumaddan cusub la sameeyey runtii waxay xukuumaddu heshay fursad aad badan bay heshay waddankii oo nabada aqoon-yahankii gurbajoogtii iyo dadkii laftigiisa oo diyaar u ah muxuu ahaa in maanta uu taageero xukuumadda ayaa muxuu ahaa yaa la helay laakiin fursadda iyada marka runta laga hadlo hogaaminaysay ugama faa'iideynin muxuu ahaa bulshada waxyaabahan hadda la sheegayo tashi la'aanta iyo kala jebinta xisbiyada iyo dhibaatooyin kale oo jira oo maamul xumo ah waxaan leeyahay arrintan hadda xisbiga aan anigu ka tirsanahay xukuumaddiisa muxuu ahaa arrinta iyada muxuu ahaa yaa samaysay waxaan u istaagnana waxay ahayd in sixitaan la sameeyo oo dhibaatadan jirta la sooxaday ahayd waxaan anaga laftaan ugu istaagnay waxaa kaloo laakiin jira oon leeyahay marka laga hadlayo cilmiyan waxaa jira externally ah oo in la yidhaaho uun xukuumaddiiba yaa diiday keliya ma aha marka laga hadlayo waxay Soomaalidu u heshiin leedahay waxyaabo fara badan baa jira waxaa jira muxuu ahaa dana shakhsiyeed baa jira dana guruub baa jira waxaa jira marka xitaa cadaadis kale oo fara badan baa laftigiisu jiri karaya ama external ha noqdo dibadda ha noqoto ama ha noqdaan dad dana gaara laba ha noqdaan waan qirayaa inay qayb ku leeyihiin xukuumaddu
xukuumadda hadda joogta ay qayb ku leeyihiin laakiin ma bilaamin soomaaliduna hadda ma bilaamin arrintoodii iyo wadatashigooduna wax hadda bilaamay ma ahayn dhibaatadan waxay ahayd dhibaato hore u soo jirtay oo soomaalidu ama 30 sanaba ha la yidhaaho ama ka horba ha la yidhaahee suurtagal ka dhigi weyday muxuu ahaa in la wada tashado marka waxaan leeyahay shakhsi kasta gruub kasta xisbi kasta mas-uuliyad baa saaran in la yidhaha xukuumaddii baa diiday keliya ma aha xisbigu wuxuu leeyahay barnaamijuu leeyahay wuxuu leeyahay waxyaabo fara badan oo uu qaban karuu leeyahay wacyigelin baa la samayn karaa marka waxaan leeyahay waan ku raacsanahay oo waan sheegayaa in xukuumaddu sidii la doonahaya ummaddan uga faa'iidan weyday wixii laga filahayena sidii bulshadu ay filaysana inaan la helin waa wax iska cad weeye arrinta iyada oo xukuumaddu ay ka gaabisay marka waxaan leeyahay laakiin yana odhanin xukuumad keliya yaa ka gaabisay waxaan sheegayaa in xisbiyada laftigooda iyo shakhsiyaadba laga gaabiya ama aqoon-yahan ha noqdo ama shakhsi kaleba ha noqdeen waa mahadsantahay guddoomiye waxaa sheegtay in xisbiyaduna ay ka gaabiyeen ayna sidoo kale xukuumadduna ka gaabisay adiga laftirkaagu waxaad ka mid tahay xisbiga talada hayo oo lagu eedeynayo sidoo kale laakiin aqoon-yahan caqiil waad maqlaysay dooda saddexda guddoomiye si afayeenka owanlef ibraahim dheere iyo mubaarakba saddexdoodaba hadalkooda waa maqlayay maxaa kaaga soo baxay muxuu salka ku hayaa mise aragtida iyo sidoo kale adiga waxa meesha caqabada ugu badan ee taala soo dhawow sidoo kale roob baadaay hadduu barnaamijku wax yar galo adaa speaker oo u qaybin doona hadalka waa maasan tahay muudka iska qaad caqiil muudka iska qaad sorry arrin waa la isla qirsan yahay oo waxa la isla qirsan yahay inay caqabada inay dadka axad qarameed samaystaan oo marxaladda lagu jiray iyo fursadaha jira laga faa'iideysto inay dadku wada garanayaan laakiin caqabada jirta ee diidan ee hor taagan inay dawladda tahay mas-uuliyiintan waa mas-uuliyiin urur iyagii dawladdan waxyaalo fara badan baa dhex maray way ka wada hadleen oo ay mar walba sheegaan waxayna la jooga oo hadda hadlaya mubaaraga u dambeeyay waa mas-uul xisbiga BB ka tirsan dawladdan xilalka kala duwan ka soo qabta isaguna markhaatibu ka yahay wuuna sheegayaa inay dawladdu mas-uul ka tahay oo arrinta caqabad ay ku tahay waxaa jira dawladda Ethiopia faragelin way la iman kartaa wax kasta oo faragelin xagga Ethiopia ka yimaada waxaa jira ummaddu ka soo hari kara ummaddu ay qabsan karayso wax kasta faragelin meel buu ka yahay laakiin waxa ummaddu qabsan karaysaa jira waxaan kaloo ogahay dadka indheer garadka iyo xisbiyada iyo aqoon-yahanku waxay ka garwusan yihiin marar badan in ay xagga federaalka ama dawladda dhexe ay dawladda deegaanka kaga imaan karayso waxyaalo culaysya oo laga yaabo shacabka deegaanka inaan raalli ka noqon laakiin markii la isla og yahay oo wax la isla og yahay ay tahay xukuumaddu kuma eedaysana marka waa laga garwusan yahay waanan ognahay waanan garanaynaa in mar walba waxa adiga aad doonayso wax ka bedelan in xagga dawladda federaalka kaga iman karayso haddaba waxay tahay su-aashu in ay dawladda hor taagan tahay wada tashigii iyo axdi qarameedkii ama axdigii deegaanka arrintaas waa xaqiiqo wey cid walbana way og tahay aqoon-yahanka meel walba joogo shacabku wada ogyahay shacabku inay diyaar yihiin oo ururadu diyaar yihiin oo doonayaan in la wada tashado waxna la iska ogaado wixii la iska ogaadana dawladda ay fuliso lagagana dambeeyo laguna taageero lana toostoosiyana dadka dhan wada ogyahay maxaa keenaya markay dawladda arrinta u diidanto ay hortaagan aniga hal shay kaliya aan isleeyahay dhowr shay way jiraan laakiin shayga ugu muhiimsan baan idiin sheegay oo aniga aragtidayda intaan deegaanka ka warhayo inta aan deegaanka joogay iyo intaan akhriyay iyo intaan waraysyada kala duwan daawadayba waxa weeye dawladda mas-uuliyiinta dawladda ama hoggaanka hadda dalka dawlad deegaanka Soomaalida haysta ee madaxda ka ah mabda'iyan iyo yoolka isagu uu toganay wuxuu aaminsan yahay caqiid ahaan qadiyad ahaan uu aaminsan yahay iyo waxa shacabka iyo ururadu doonayaan ba kala bedelaan sidaa daraaddeed marka inta la isu yimaado aan waxba la isku raaci lahayn mabdii baa lagu kala bedelan yahay waxa lagu kala bedelan yahay yoolka waxa lagu bedelan waxa la doonayo rabitaanka baa lagu kala bedelan yahay waxa lagu kala bedelan yahay rabitaanka la fulinayo cidda rabitaanka la fulinayo waa tuma taa lagu kala bedelan yahay sidaa daraaddeed marka la isu yimaado dad mabaadi'dooda iyo yoolkooda kala bedelan yahay istaraatiijiyad ku heshiin karayaan marka waa inay marka dawladdu iyo nidaamka dalka ka jira hadda isagu awood haystaan ururada awood ma haystaan awood haysto waa in arrinta carqaladeeyo arrintaas marka waxay aaminsanahay inay tahay sababta keenaysa inay dawladdu iyadoo dadkeedii iyo dalkeedii iyo aqoon-yahankeedii ummadeeda waraan tashanna leh inay hor istaagto arrintaas keenaysa aan isleeyahay marka anigu su-aashan jawaabteedu way kooban tahay
dawladdu arrintaasay u diidan tahay waana dawladda cidda diidan intaasaan kusoo kobayaan maasan tahay aqoon-yahan caqiil hal aragti baad qaadateen saddexdiina sidoo kale mubaarak wuxuu sheegay in ay ka qayb ka yihiin sababaha lagu heshiin leeyahay caqiil mudgal caqiil aqoon-yahan caqiil su-aashaas intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa maadaama axsaabtii siyaasadda tihiin waxaad idin siinayaa min 2 daqiiqo oo ah maadaama una shacabkii Soomaaliyeed maanta saa u midaysnayn waxaa loo xaqiiqo ninkii hawadu sidoo sheegay roobkii baa haysta miya waxaad moodaa roobkii baa ka soo dhex galay waa lay maqlayaa baan malaynayaa waan soo noqday ma lay maqlayaa ku maqlan roob badan baan helaya marka Sheekh Ibrahim Dheere maadaama xaaladdu saas tahay oo Etoobiyana lagu madlan yahay hadduu suurto galay in la galo heshiis qaran Soomaalidu way saa u kala taalo door intee leeg bay ka qaadan kartaa axsaabta siyaasadda kuwa muxaafidka iyo kuwa mucaaradka aba arrintaas mowqif noocee ayaa idinka qorshaysan si aad shacabka falanqayntan tooska idinka daawanaya aadka u fara badan faalada dheer ka dhiibanaya aad aragtidiina xisbi siyaasadeed qof walba u cabirtay Sheekh Ibrahim Dheere ku soo dhaw maadaama shacabkiisa su'aashu waxay u dhacaysaa maadaama shacabkii Soomaaliyeed uu idinka sugayo oo siyaasadiisa idinku majaraha u haysaan idinka iyo xukuumadda oo Soomaali ahaan ku matalaysaan maanta way midaysan yihiin Oromo Axmaaro iyo dadadkii kale ee qoomiyadaha Itoobiya ku ay wada hadalka aaday Soomaalida door intee leeg bay ka qaadan doontaa wada hadalkaas maadaama midaan aragtidiina siyaasadeed ee xukuumadda iyo axsaabta siyaasaddu sidan u kala fog yihiin wama sintiin Sheekh Ibrahim ku soo horta shacabka Soomaalida Itoobiya ila badiyana waxa la yiraahdaa 8% buu ka yahay tira ahaan oo la yiraahdo waxba yara kordhay laakiin tira koobkii hore tira koob waxa ugu dambeysay marinayaa waa qaran 97 miya ahayd 4 milyan iyo wax laga dhigay boqolkiiba 6 bayba noqon baan u marinayaa inagoo wada soconna marka yaan tira ahaan saa u yarnahay ka waran inagii oo shacab ahaan la inoo qaybiyay axsaab ahaan la inoo qaybiyay taa marka waxay ku tusaysaa haddaan iswada raacno yaaba number yar nahay haddii layna sii qaybiyo inaynaan layna waayi karaba markaan u imaano Soomaalidu say wax uga qayb qaadan kartaa Soomaalidu waxay uga qayb qaadan kartaa iyadoo midaysan hadda national dialogue baa lagu dhawaaqay in la tagaa loo baahan yahay barnaamij baan ka diyaarinay waxaan war barnaamijkan dooda qarana ee Itoobiya galayso inagoo Soomaaliya waxdi qarameedna isla saxiixanay shir qurba joog iyo qaran joog iyo muxaafid iyo mucaaradna isla saxiixanay buugaan ku gali lahayn wadana dadkii nooga qayb gali lahaana aan isla qaadanay aan tagno wana laga diiday dawladda meesha joogtaa diiday shirna mayna qabanin axdi qarameedna deegaameedna ma jiro qofkii la geyn lahaana wax nagama weydiinin ajendan waxna lagama weydiinin marka waxaan gelaynaa marxaladan hadda wada hadalka ee Itoobiya annaga oo qof la socdo lahayn ajendana lahayn marka hadduu xaalku sidaa yahay maxaa nala gudboon waxaa nala gudboon ka xisbi ahaan maxaa idinka qorshaysan hadday xukuumaddii saa ooga gaabiso oo idinkala tashan weyday adiga iyo xisbiga FEB iyo doorka siyaasadda oo adag oo ku leedahay siyaasadda dawladda deegaanka Soomaalida adiga ka Sheekh Ibrahim iyo xisbigaagu maxaa idinka qorshaysan hadday xukuumaddii marta arrinteedu u dhacdo horta de barnaamijkan la yiraahdo national dialogue ama wada hadalka qaran guud ahaanba waa barnaamij dhinac ka raran keliganaba ma 53 xisbi oo Itoobiya isu timid yaa waxaanu isla qaadanay in uu barnaamijka dhinac ka raran yahay lana joojiyo laakiin heer federaal iyo heer deegaanba PP ba iska wadata oo waa mashruuc Itoobiya dhan ka biyo diidsan tahay sidii komishinkii doorashada loo sameeyo kala moodaa in loo sameeyay marka mowqifka axsaabtu waa ku kala jabeen axsaab waxay dhaheen aan saxno oo waxa ka qaldan hal la joojiyo hal la saxo axsaabna waxay dhaheen waan qaadacnay
annagu xisbigeena waxaan ka mid ahay axsaabtii tiri aan saxno hal la joojiyo weli dadaalkiina waan wadnaa haddii taa marka ay suuroobi wado la sixi waayo dee waxaan ku biiri doonaa axsaabta dhahaysa completely kama qayb geli doono hadda hal fadhi baa jiray oo ramadaanka dhexdiisii lala galay axsaabta oo speakerka baarlamaanka iyo ninka commissionkan cusub ee hadda la leeyahay waa wada hadalka loo magacaabay ay ku jiraan wixii laga wada fadhiistay wuxuu ahaa haddaad axsaabta tihiin sixidii aad codsateen waan gudagelaynaa kulan kale aynu isu imaanaynaa ha qaadicina inoo suga rajaheeduna aad buu u yar yahay ilaa dhowr iyo 10 xisbi oo warar ku jirtan iyadu wayba qaadiceen ba waxay dhaheen hawshaas wax raja ma leh kaasi marka waa mowqifkanaga xisbi mustawa Itoobiya ah laakiin mustawa deegaan markaan nahay anigu waxaan qabnaa oo ilaa haddana ku soo celcelinaynaa haddii nimankii dawladda ahaa ay noo joojin maayaan ay waxoodii iska wataan innaga axsaabta mucaaradka ah iyo shacabka aan shir qabsanno bal ajandayow innaga inoo gooni ah oo ummadda Soomaaliyeed ay wadato oo federaalka qowmiyadda ku dhisan iyo qodobkii madax bannaanida iyo xuquuq badan oo naga maqan oo xuduudaha iyo customka iyo dhibkana haysta ah wax badan intaan diyaarsano aan la tagno anagu qowmiyad ahaan ciddii markaa ka qayb galaysaana ay kala qayb gasho haddaan wada qaadacaynana markaa inagu aan qaadacno laakiin asal ahaan nuqul inaan diyaarino axsaabta mucaaradka iyo shacabka ay shir qabsadaan oo dawladdan waxba laga sugin anagu taasaan qabnaa waa maasantahay sheekh Ibrahim Dheere waxaan u soo noqonayaa afayeenka jawaabta wadaniga xoreynta ogaadeen jawab barnaamijkeena sidii baan u wadnaa barnaamijku wuxuu marayaa 41 daqiiqo 1 saac iyo 20 daqiiqo uu qorsho ahaa inaan barnaamijkoon si qof walba aragtidiisa shacabka muddada intuu u dulqaato uu fikir fiican u gudbiyo barnaamijkuna si dhameystiran oo inagu baxo hal su'aal ayaan dib u soo celin doonaa su'aasha arrimaha sixir bararka iyo shidaalka tan markaan ka geyowna afayeenka ONF Cabdiqaadir Xasan Biixi Cadaan Hirmooge arrimaha dialogue heshiiska qaran ONF doorka kaga aadan door intee la eg ka qaadan doontaa maxay ooga dhigan tahay Soomaalida shacabka faraha badan ee ka dhursugaysa arrintaas ONF aad baa loogu isha loogu hayaa door intee la eg bay rabtaa inay ka qaadato hadduu sidan u socdo maxaa ka qaldamay oo shacabka u sheegaysaa maadaama aynan ummadii Soomaaliyeed midaysnayn maanta oo sidan axsaabteedii arrimihii siyaasiga ahaa loogu kala tegay oo xukuumaddii uu hogaaminayo madaxweyne mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo sidoo kale xukuumaddiisa iyo xisbiga uu hadda uu asuu ka tirsan yahay sidan loogu kala fog yahay door intee la eg bay ka qaadan doontaa maxaase xal u ah ummadda Soomaaliyeed waa maasantahay muudkana iska qaado maadsan bismillah horta sidee xubnahayna sheegeen mas'uuliyiintaniba tashiga Soomaalida inoo muhiima marka hore marka dambe Ethiopia iyo Afrika iyo caalamka wax la wadaagtay marka inaan tashanno weeye ama xukuumaddu haynaga mid ahaato iyo xisbiga xukuumadda haya ama haynaga maqnaatee inaan tashanno weeye dadka Soomaalida oo marxaladan aan wax weyn isweydiino waxa Ethiopia ka socda wada hadalka la sheegay Ethiopia wada hadal aan haday noqoto inaga Soomaaliyan maxaan isku ognahay taasa muhiim bino ah Ethiopia haday wada hadal samayso maxaan la tagnaa marka Soomaaliyan inaan tashanno ya marxaladan maanta ani ila bisil waxa timid wada hadalka Ethiopia iyo kaalinta aan ka qaadan karo horta numberkeena haduu soo badan ani waxa igama gelin numberka inuu badan yahay inuu soo badnay aniga danta Soomaalida ay taalo ama wax anaga Soomaali anagoo ah oo oromada la ekaysanayna aan joogayna ama Ethiopia ku kala tagaysa ama numberkana uu 6 ahaado Sheekh Ibrahim ama 9 ha noqdo ama waa la inoo kala qaybin oo anagoo sayidanu joogi ama bahashan Abasinia ay dhoobtay waa lagu kala tagay maxaa loogu qarqarinayaa muxuu ahay bahashan buuraleydan maxaa loogu qarqarinayaa taas reality Soomaaliya haday 6 tahay inta ay qaataan in leeg baanu qaadanayna shirka miyaa wada tashiga Ethiopia National Dialogue leeyahay waa guulwada conference wey kii milis oo kale wey kii migis oo kale wey iska sacabiya wey anagu taa waa diidnay hadii 1000 jeer shirkaas kala la qabtana kolla raalina kuma nihin waxbana naga bedeli mayso Ethiopia ku jeclaan mayno waxaan isku ognahayna ma jiro
inaan gacanta ku design garayno magaca Ethiopia laga doodo oo diinteeda laga doodo calankeeda laga doodo taariikhdeeda laga doodo oo laga doodo muxuu ahaayay awoodeeda oo dhaqaalaheeda laga doodo oo sal kor iyo hoos nin walba uu qolo walba ay waxeeda miiska soo saartay mooyaane inna kama wajadna aabaa'ana al-abasiniin iska raaca kama yeelino lasna abasiniin walan nakuna mana aanaan ahayn mana noqon doono marka ha loo sheego commissionka ninkaad leedahay baalkii iyo guulwadayntan waxba ka bedeli mayso xaaladaha Ethiopia waxba kama bedelayso Ethiopia run bay isu sheegi laadahay 60 sano u samay dabaal bay ku jirtay Eritrea 30 sano istirayeen Tigray 30 naga 70 sano istirayeen Oroma 60 sano dagaalamaysa Ethiopia way ictiraaf karin laadahay inuu dagaal ka joogo oo la siidan yahay weligeed ictiraaf laadahay sida iyadoo abayna ku dubin doontaa imbratoriyadihii dhammaaday bay ka mid tahay imbratoriyadihii dhammaaday tii islaamiga ahayd baa dhammaatay tii rooshka imbratoriyadii caseed baa dhammaatay imbratoriyadii ingiriiska iyo tii faransiiska iyo tii reer yurub baa dhammaatay imbratoriyadii muxuu ahay romanka dhammaatay tii waxaa dhammaatay muxuu ahaa bershiyaanka iyo farisiinta tan ma joogayso hadday beentaa ku dhisan tahay nagargin leelaagin lagu celceliyo iyo kubur la yiraahdo oo deedna la beentii la sheego lagu kala tago ma shaqaynayso Soomaalida kaba qayb galayso waxba naga bedelmayso innaga waxay noo yaalaan inaan tashano oo run loo sheego xukuumadeenan fuliga ah dadku inuu tashada diidan sababtoo ah rabitaan shacbi kuma iman marka haddii ra'yi shacbi yimaado inay cararaan bay ka baqayaan waradeero billaah loo soo joogsan lahaa moogtahay maxaa weeye meel kalun bay ka fiiriyeen war dadka Soomaalida inuu tashado iyo naag maxay karis xun iyaduna kaal kula dadka Soomaalida tashan waayo oo geesi noqon waayo oo sayid noqon waayo xukuumadana difaaci maayo aayihiisana ma difaaci karo asaguna marka dadka Soomaalida kaliya bixinta iyo tala la'aanta laga daayo xukuumadda hadda dadka dhahaysa muxuu ahay ruux aqoon-yahanaba jalaatu meel ku soo cunayay dhahaysa moogtahay inuu wax noo kordhay diidan yihiin moogta hadaa meelan oo dhimanay doonayeen inta Ethiopia inta sadka wax walba intay naga qadiso inaan deedna meel oon ugu baxtino adduunka kale xataa meelan biyo ka cabaynay jir dad jalaata xalaal cunayay jalaata booliga kuwa cunayay wax ka sheegayaan moogtahay marka afay laakiin buddigu door inteleg bay ONLF ka qaadan doontaas adoo su'aasha صد البرقسية كسوكوبيا ما دام الوقت دركسي دور وين بنك قادنا أنا وإثيوبيا لحاجونا سومالي نجوا واحد قيمة لنا كل حاجونا والسفر جاني ماله حاجونا ديار بالنا تذكر سومالي ده أنا تنو هو السفر عبى سوري هنا دربين تلا سسورو إنه وحمل دكتان وما ده كلام سيدا أي كل الله لمان يعني ديارنا هاي كانوا وين بنك قادنا waxaana siray in wax guud la wada sameyn karayo xukuumad iyo xisbiyo iyo shacab iyo muxuu ahay wax garad kalaba isu iman karay taas muxuu ahay ya waqtigana laga qaaday marran yaan talaabooyinka qaadi lahayn haddana waan qaadi doonaa hadii la yiraahdo waa ma sabtay afayeen waan kugu soo noqon doonaa su'aasha u dambaysa iyo arrintaada ku soo xidhi doontid gudoomiye mubaarak soo dhawow Soomaalida heshiiskaas maxay la tagi doontaa ka qaldamaya maxay u baahan tahay inay halkan kala tagto iyo heshiiskaas wuxuu uga dhignaan doonaa mustaqbalka iyo aayaha shacabka Soomaaliyeed Sheekh Ibrahim Dheere gudoomiyaha xisbiga Rugcadaas Siyaasiga Cabdiqaadir Xasan Biixi gudoomiye afayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo waad maqlaysay say u soo wada hadleen adiga doorka aragtidaada iyo sidoo kale doorka ay Soomaalidu ka qaadan doonto bismillaahir rahmaanir horta Soomaalidu danteedu waxa weeye in la midoobo oo shacab iyo xisbiyo iyo xukuumad intaba intii la midoobo in laga wada hadlo muxuu ahaa danaha guud waxaaban caddayn oo hadda meesha marka runta laga hadlayo wax maanta la isla qaatay oo cad oo la leeyahay waxaas aynoo ah mustaqbal inoo ah oo aayaha ummadda horta loo dhigay baan jirin marka anigu waxaan odhan lahaa aqoon-yahanka odayaasha qaybaha kala duwan ee muxuu ahaa bulshada xisbiyada xukuumadda intaba in la tashado oo intii laga wada hadlo danaha dowlad deegaanka Soomaalida
iyadoo la isku waafaqsan yahay lala tago muxuu ahaa federaalka oo laga qayb galo wada hadalka oo ay caddaato waxa aan doonayno waa wax lagama maarmaana taana waxay ku imaan kartaa cid walba mas-uuliyadda ay leedahay inay qaadato maalmo dhoweed shirar baa la bilaabay waxaan u malaynaa wiig ilaa wiig meelaha hortood aqoon-yahanada iyo odayaasha iyo kulamaa la bilbilaabay kaa in la xoojiyo xisbiyada laftigooda laga qaybgeliyo cid walbana ay ka qayb galaan oo aynu samaysanno wax go'aana oo la isku ogyahay arrintaa muhiim weeyaan odhan lahaa xukuumaddana waxaan odhan lahaa arrintaa sida xisbiyada ay ka cabanayaan waxa laga hadlayo waa arrin guud oo ummadda dan u ah cid gaarahoo xisbina gaaru ma aha dad gaarana gaaru ma aha marka arrintaa laftigeeda xukuumaddu inay fududayso oo roolka ay ku leeyihiin ay ka qaateen baan soo jeedinayaa intaasaan kaga baxay mahadsantihiin waa mahadsantihiin si guud ahaan axsaabta siyaasadeed xisbiga talada haya oo weynale feeb aqoon-yahanka soomaaliyeed si guud ahaan shacabka soomaaliyeed faallooyinka ay soo bixinayaan kurti waxay ku dhaliilayaan qolo walba aragti siyaasadeed oo isku qanciyeen in ay meel la taagan tahay oo dhaliisha qolo walba mid walba gooni ay u qaadan doonto qolo walbana ay aragti siyaasadeed oo ay ku qanacsan tahay feeb iyo gudoomiye sheekh ibraahim inuu aragti siyaasadeed ku qanacsan yahay meel la taagan yahay TC oo weynale gudoomiyaha jawxo cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey iyo jabhaddu inay meel aragti siyaasadeed la taagan tahay BB mustafa maxamed cumar mubaarak sheekh shaale aragti siyaasadeed inay meel la taagan yihiin oo ay nooca u jirto baa dhammaan dhaliisha korka laga saaraya waxaana sidoo kale lagu boorinayaa in la wajaho danta shacabka Soomaaliyeed si toos axsaabta siyaasadeed u wajahaan haddii kale ay xaaladdu farax xilli ay ka baxday aan laga qaban karin عقيل waad maqlaysaa dooda gudoomiyaasha iyo sidoo kale ruugcadaagayaasha siyaasadeed maxaa kaaga soo baxay halka ay sartu ku qurusan tahay iyo doorka ay ka qaadan doonto Soomaalidu wada hadalka qaran maxaa kaaga soo baxay maxay noqon kartaa doorso inta leeg bay Soomaalidu ku qaadan kartaa hadalkooda adoo toos u abaaraya maxaa kaaga soo baxay sidoo kale ku horreey maadaama speakerka dhexdhexaadinaya barnaamijka sida toos ka tahay aqoonyahan بسم الله waxa weeye horta wada hadalkan qaran muddo badan baa la sheegayay marka ma garanayno soo qabsoomi iyo inuu qabsoomi karo maxaa yeelay waxaan ka warhaynaa nidaamku u dhigan yahay iyo qaabku u dhigan yahay ee loo wajahayo ajandayaalka iyo cid hogaaminaysa iyo sida loo diyaarinayo in lagu kala duwan yahay oo aad la isugu kala duwan yahay ururo fara badan oo mucaarado oo la kama tahayna marka arkeen sida ku socdaan way qaadaceen haddii arrinta dib loogu noqdo oo wada hadal qaran oo xalaal ah oo ururada mucaaradka iyo bulshada ay ka raali tahay oo hadhow bal markii meesha la isugu tago wixii lagu wada hadlayo wixii la isku mandhaafo hal la arkay laakiin dagaalka hore iyo diyaarinta hore wax la wada raali yahay la fahmi karayo uu noqdo ay arrintaas suurtagal noqoto Soomaalidu waxay macna yeelan karaysaa Soomaalidu way ka duwan tahay qowmiyadaha kale Itoobiya xaqada marka la eego waxay macna yeelan karaysaa haddii wax la isku og yahay xukuumadda iyo ururada mucaaradka iyo bulshadu ay isku og tahay xukuumadduna ay hormuud u tahay la wada socdaan la wixii ummad qowmiyadaha Itoobiya meesha isugu qowmiyadaha Itoobiya markii waa in qowmiyad ahaan loo tago ururada mucaaradka iyo dawladda is wata inay meesha tagaan weeyaan markii sidaa lagu tago wax macna lehna waa la gudbin karaa wax macna lehna waa laga soo noqon karaya haddii taa la waayo way dhacdeen suurtagal noqon weydo taasi meesha gudaheeda wax la tagayna ma jirto wax macna lehna meesha la tabaay xukuumaddu hadday iyadoo sida ay hawsha tahay meesha tastay wada hadalka ka qayb gasho kuma hadlayso afkii shacabka kuma hadlayso afkii Soomaalida iyo qowmiyadda kuma hadlayso wax iyaga u gaar ah oo marka iyagu ay naqshadaysteen oo laga yaabo inay dhaliilo fara badan iyo waxaan qowmiyadda Soomaalida rabitaankeedii iyo sooyaalkeedii iyo masiirkeeda midna ka turjumaynin in meesha la tagaan baa laga yaabaa hadday meesha arrinta la tagaan ururada mucaaradka waxay ku khasbanaanayaan in ay mowqif midaysan arrinta ka istaan mowqifkooda inay caddeeyaan markii mowqifkooda iyagu ay caddeeyaan ku khasban yihiin inay caddeeyaan taasi marka waxay keenay wixii ay ka heli lahayd Soomaalidu ay meesha ka soo heli lahayd ama wixii ka soo gaar lahayd hoos u dhaco Soomaalida qiimo dhac ku dhaco si marka taas looga mar haddii marka faa'iido la'aan ku soo dhacaysa kala qaybsanaanta waxaan soo jeedinayaa oo fiican in laga waantoomo muxuu ahaa in la kala taagnaado dawladda halkeedii ka soo degto ururaduna sidii marka hore wax u dhigayeen
bal si ka yara dhow oo laga yaabo inay isleeyihiin xukuumaddu way kasoo dabci karto kolley way isku daaleen muddo wada kulmeen inay wax u dhigaan dowladdan ay kasoo dabacday oo ummadda Soomaaliyeed oo israacsan iyagay sharaf ugu jirtaa iyaga mas'uul ah ummadii badan ugu jirtaa marka sabab looga carari karayo ma jirto haddaan meesha wax kale ku jirto marka waxaan soo jeedinayaa kama dambeystii hadduu wada hadalkaasu aqoon waad arkaa xisbiyadii siyaasadda iyo doorkii oo door weyn ku lahaa sida xisbiyada oromadu doorka weyn ay ugu leeyihiin wada hadalka qaran iyo xisbiyada waxmaaradu waad aragtaa waxay taagan yihiin meel xukuumaddiina waxay taagan tahay meel marka transparency maxaa u noqon kara ayaka xukuumadda iyo xisbiyada adigu maxaa u dhaxayn kara oo maxaa dhexdhexaadin kara doorkii aqoonyahanka doorkii culimada doorkii ugaasyada iyo doorkii waxa u dhaxayn karaya xaqiiqatan waxa weeye waxa u dhaxayn karaya dalku de ururada kaliya ma aha dowladda kaliya ma aha dalku odayaal dhaqameed buu leeyahay aad u qiimo badan oo fara badan aqoonyahan fara badan oo kala duwan buu leeyahay oo maaragtay wada indheergarad iyo khubaro ah in bulshada noocaas iyo qaybaha kala duwan ee muhiimka ah ee indheergaradku inay qayb ka qaataan arrinta oo isu soo dhaweynta ururada iyo dowladda inay qayb ka qaataan way dhib yar tahay in la isu keeno oo wax la taaban karo oo mujtamacu wada leeyahay la samaysto oo haddii dowladdu diyaar u tahay ururaduna ay diyaar u yihiin haddii marka taasi ay suurtageli kari weydo markaas halis tahay haddii ururada iyo dowladdu ay arrintaas la meel dhigi kari waayeen ururaduna ay ku eedaynayaan arrinta iyada in dowladdu ay diidan tahay dowladduna iyada lafteeda eedeeda ay wadato taasi ma qarsoonaan karayso ummadii dalka lahayd way joogaan aqoonyahankii baa jooga culimadii baa joogta indheergaradkii baa bulshada qaybadeeda kala duwaneed baa jooga bulshadaas soo dhex gasho markaana wax la isku geeyo meesha laga ka soo baxaan sidaas ayaan garata waa maasan tahay aqoonyahan caqiil sidoo kale dhexdhexaadinta afkaartoodii iyo isku keentoodii culimada meesha joogta way maqlaysay intaa waxaan ku barnaamijku maadaama halkii saac uu guda galay 20 daqiiqo ee waxay noo soo hadhay qof walba soo xiritaankiisii iyo dardaarankii iyo su'aal aad u muhiim u tahay in laga hadlo shacabka faallada ka bixinaysan ay aad isku weydiinayaan waxaan ku horeynayaa mudane Sheekh Ibrahim gudoomiye Sheekh Ibrahim waxaad og tahay in deegaanka Soomaalida uu ka dhacay caqiil mudgal caqiid waa adoo maasana qoyaan in uu ka dhacay sixir barar shidaal la'aan iyo sidoo kale noloshii taalay meesha oo dadka adkaatay tusaale ahaan xabadii biyaha ahayd ee 10 riyaal ahayd baa waxaa la siinayaa 20 riyaal dollarkii hawadu isku shareeray cuntadii sidoo kale way qaaliyooday jiifafkii hoteeladu way qaaliyoobeen cuntadii dadka hoteelada laga cunay way qaaliyoobeen mushaharku shaqaalaha uu ku qaadanayay 3,000 mushaharka shaqaalaha qaadanayay uma goynaysa half sonkora maanta ummadii Soomaaliyeed iyo sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalida marka mudane Sheekh Ibrahim maadaama oo khabiir tahay gudoomiye xisbi tahay urur mucaarada oo xukuumadda arrinta inay tooshka u huriyaan oo si looga baxo arrintan aan ahayn hab mucaarad ee ah dhaliilo toosineed dhaliilo ay ka u qaybsama dhaliil burburneed iyo dhaliil toosineed ma ka qaadan doorkaas madaxweynuhu wuxuu carab dhabay in aad tihiin inaynan hawl mucaarad aan la abaabulaynin checkpoint looga gudbaya sida ayaka xilka looga tuur lahaa inay tahay bal soo dhawow arrintaas xaaladii gobolku maanta waxay maraysaa meel aad u ciriiri runtii inagu hadda intii u dambeysay maan ka qabanay oo sicir barar ah 4 sano baggage dhan oo fashilaad ah oo isdaba socday buuqay qayb ka tahay hawshani waxa laga yaabaa inay tahay runtii u yarayd oo qaraxa uu keentay wax ka weyn baa yaalay isbedel baa dhacay ay ummaddu sugaysay ilaa hadda hal page oo qoraal ah oo dadkii isbedelkan sameeyay waxay rabaan inay waddanka ku hogaamiyaan lama hayo waxaan ku matali karaa gaari habeen jooga oo gudcura oo 120 lagu kaxaynayo oo iftiin lahayn oo marba darbi lagu dhufanayo horta fashilku halkaas uu ka soo bilowday wuu soo socday ummad wuxuu u yimid isbedelkani dulmi ku dhacay 30 sano oo in dib u heshiisiin loo sameeyo u baahnaa wuu sii kala kaxeeyay oo wuu sii kala jajabiyay wuu soo socday haddana axzaabtii siyaasadda ee wax la wadaagi lahayd ee wax la dhisi lahayd buu haddana ku fashilmay inuu la tacaamulo nidaamkani way soo socotay haddana abaaraa dhacay abaarihii baa la yidhi see loo furdaamiyaa oo 2 sano ay ka hadlahayeen hay-adaha cimilooyinka iyadana waxba lagama qabanin bal iska dhaafe lacagtii yarayd ee loogu talagalay abaar hadday dhacaan aan ku bixinaa doorasho lagaga galay ta kale muhiimka waxay ahayd isbedelkii cadaalad baa laga sugahayay waxaa halbeeg u ahaa doorashadiiba dadkii oo taagan hortoodii ku shubteen haddana waxaa loo yimid
xaaladda hadda taagan oo sicir bararka keentay oo 4 sano laga qeylyahay oo la lahaa war birkan aad dawladda ay dhoofinaysaan aad suuqii ku cayaaraysaan ka daaya dadkeenu lacag kale ma haystaan dollar lama isticmaali karo Ethiopia waa mamnuuc laakiin waxaa la isticmaalaa birki markii inta gawaari lagu qaado sidii bakhaar raashin la rarayo tog wajaale la geeyo dollar lagu raadiyo dollarkii cirku galaya 4 sano in hawshaas socoto laga hadlayay annaga ka hadalay dawladda federaalka ka hadashay shacabka ka hadlay corruption ka xukuumadda waday wamayna joojin haddu marka qaraxi dhacay oo shacabkii ay taabatay oo baahidii banaanka u soo baxday saacada iyada ah yaa lagu baraarugay marka waxaa nasiib darro kala noqotay meeshii la rabay inay xalliso oo dawladda ahayd inay intuu madaxweynihi soo istaagay TV-ga uu yiri ma xallin karno marka bal inta fashil ee 4 sano isdaba socotay fiiri marka tani way u dambaysay oo kali ah sidaa darteed mushkila 4 sano soo socotay laguma xallin karo 4 maalmood iyo 4 bilood midna haddii la xallinna sababtii mushkiladan keentay iyadoo xal ma noqon karto waxaan ogsoonahay sicir bararkan qaybta u weyn waxaa keentay xukuumadda deegaanka nidaamka corruption-ka iyo lacag boobka ku sameynaysa xuduudda laakiin gudoomiye xukuumaddu waxay sheegeen sababta keentay nidaamkan in aynan ahayn ayaka balse ay tahay xaaladaha isbedbedelaya ee guud ahaan adduunka ka jira shidaalka qaaliyoobaya dagaalada ruush iyo isbedelada dhammaan caalamka ka jira ayuu ku saleeyay madaxweynaha golaha wasiirada kamaaliyadda iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga idinku maxaad cad ku cadaynaysaan in ay hawshan ayagu ku sababeeyeen Somaliland markay federaalka u dacwootay 2 sano laga joogaa ay tiri ay leedahay annagu waxaan nahay wadan yar oo dollarka ku dhaqma dollarkiina waxaa naga fasahaadinaya oo naga kharibahaya kililkiina oo intay keenaan bir wajaale ya dollarkii waxaa laga doonayaa Hargeysa marka uu ku qaaliyoobaya marka ma jirin waxaan caalamigan ka sheekeynayno marka uu dagaalkan hadda Ukraine ee cusub ee cumrigiisuba bila yahay ma ahayn marka la qeyliyahay ee wajaale si laga yeelan lahaa dib ka socday uu ra'iisul wasaaruhu waa kii qeyliyay marka haddaaban xataa ogolaano inuu qayb ka yahay waxa caalamka ka dhacaya aan siino maxaa percentage aan siino ma 20% ba ma 30% ba ma 10% ba 100% ma aha waxa tusaale kuugu filan dadka Soomaaliyeed ee dawladoodu 30 sano burbursan tahay muxuu ahaay sadarka dawladoodu u duruufa badan yihiin dollarku caalami ahaan hadduu u kacay way la dhaqmeen way la tacaamuleen burbur ma keenin way anagu burburka u keenay maxaa yeelay anaga 4 sano soo dul fuulaysay sidaa darteed mushkilo markii loo yimaado in la xalliyo shayga koobaad ee la fiiriyo waxa weeye maxaa koos gareeyay maxaa sababay sababta ugu weyn waxay noqonaysaa dawladda deegaankeena makhraatiyayna leedahay mar hadday saa tahay sababka waa inuu meesha ka baxaa marka si xal loo helo laakiin qofkii sababka ahaa inuu yiraahdo waan xallinayaa wuuba yidhiba waan xallinayaa isagii baa ictiraafto yidhi ma xallin kara haddana shalay markuu yidhi ma xallin karo yuu shir qabto yidhi kaalay hadda hala xalliyo waan isweydiiyo waxaan idhi ma shalay uu sax yahay qofku mise maanta sax yahay mise dhegihii afku isma maqlaanba sidaa darteed waxaan leeyahay xalka keli ah waxa weeye dadkii sababta u ah meeshan in la dhaafiyo oo xukuumaddan ah hadda waxaan isleeyahay waxaa la soo gaaray waqtigii baarlamaanka deegaanku uu soo fargelin lahaa hawshan oo uu shir qabsan lahaa oo uu xukuumadda mooshin ka keeni lahaa maxaa yeelay muwaadiniinta iyagaa matala sidii la doonaba ha lagu soo doorto iyagun baa la dhaariyey oo waana la soo doortay yidhi mas-uuliyaddeeda ha qaataan oo madaxweynahan ictiraafay inuuna waxba qaban karaynin raalli ah waan dhammeeya intaas madaxweynahan ictiraaftay inuuna waxba qaban karaynin mooshin ha ka keenaan baarlamaanku hana yidhaahdaan ma wada kartid xukuumaddan ma joogi karta xukuumad kalaan samaynaynaa xalka kaan ahayn oo dhan waa waqti lumis maanta laga bilaabo qofka gaajo u dhintana baarlamaanka lagala xisaabtami isagaana ka mas'uula ummaddu soo dooratay taasaan anigu ku tala bixinaya waa mahadsantahay gudoomiye sheekh ibraahim waxaad aragtidaadu waa ku mahadsantahay afayeenka ONLF cabdiqaadir xasan biixi cadaani hirmooge soo dhawow waad maqlaysay su'aasha arrinta sicir bararka xaaladda dalku waddanku ku jiro iyo sidoo kale
barnaamijka ay soo bandhigtay xukuumadda ka arrimisay dowlad deegaanka soomaalida uu hogaaminayo madaxweyne mustafa maxamed cumar oo sheegay in ay la tacaalayaan arrintaas tallaabooyin ay qaadi doonaan ararta sheekh ibraahim dheere waad maqlaysay ku soo dhowow afayaan ONLF ka ahaan doorkee ayaa kaga aadan xaaladda maanta waddan ku jira maadaama dadkii xisbiyada siyaasadda ee waddanka dadka matalaya aad tihiin oo ina xukuumadda keliya hawsha aan lagu sii daynayn oo talooyinkii kaleba xukuumadda lagu haysto arrintan xaaladda ee inkaaran gacan intee leeg baad ka qaadan doontaan mise maxaad looga bixi karaa baad aaminsan tahay muudka iska qaad afayaan adoo maadsan بسم الله الرحمن الرحيم horta dhibaatooyin baa isugu keen xigay waxay isugu keen xigay tashi la'aantaas oo inoo sababtay xukuumadda deegaanku waxaynu u xigay abaartii oo iyadana la hakraday waxaynu u xigay abaarta dhaqaalaha marka abaar siyaasi ayna haysa abaar dhaqaale ayna haysa abaar waxayna haysa muxuu ahay dabiici ah saddexda abaarood wayna hayaan marka in la tashaday u baahan tahay ummadda Soomaalidu waxaa la baray inayna aayaheeda ka tashan inayna isweydiinin inayna cid dooranin inayna xukuumadooda talo ku lahayn inayna talo ku keenin talo ku diri karin inayna saameyn ku lahayn sidii inay sii ahaadaan waa la doonayaa marka naftaada ha lagu hayo ama haysaa la yiri dadka Soomaaliyeed wax aayahooda ugu maqan oo aayar u talinaya oo aayar isugu dhoodhoobaya oo isu kor saaraya oo isugu hagaajinaya ma jirto waxba yaan la isdhaga marin dad u xil saaran inay maartay inay iyagu tashadaan weeye iyagu ay go'aan qaataan weeye xukuumadooda maamulaan weeye xukuumadooda bedelaan weeye xukuumadooda muxuu ahaayay ay samaystaan weeye xukuumadooda iyagoo ka goodo taladooda iyagoo ku goodo tala ay ku lahaadaan saameyn ay ku lahaadaan sidan ay yihiin ee ii baardheeftu u dhigtay muxuu ahaayay mayeeraanka ah abaar baa dili kala qaybsanaan baa dili tashiga doorka Itoobiya ku leeyahay oo meesha ka maqan baa dili sicir bararka dili waxa dili wala khatar cirka wax ka imanayaan oo xalinayaan ha la iska sugo taasuna ma jirto laakiin hadda xal waxa xaalad adag ba taagan xaaladaas ma waxa maxaa looga gudbi karaa ka mucaarad xukuumaddu way soo bandhigtay sababihii looga dhigi karay xilli qaar waxa dheen annagu ma qaban karo mucaarad baa tiin door siyaasi aad leedihiin xaalad ah xilka ha laga qaado oo aan looga gudbi karin xaalado badan ayaa jira laakiin aaminsantii xukuumadda hadday la fada ixtiraamaysa hadda xilka way iskaga tegi lahayd ma sabab kale oo looga fiiri hadday la fada ixtiraamaysa way iskaga tegi lahayd inay la baktiyo dhaqan afrikaankii inuu la baktiyo una la dunto oo duruuf kasta oo qaabkay noqoto waan ula dhutin yani noocaasi ma fiicno waxa midda kale waxa fiiri sicir bar baa jira dollar baa jira dadka Soomaalida xataa dollarka Itoobiya yaala ee dawladda dhexe iyo bangiyada yaala access fiican uma helaan dollar iyaga keeni lahaa ganacsiga way yaqaanaan suuq xor aan lagama dhigahayo suuq xadidan oo hadda fiiri cadaalad darrada meesha ka jirta ascaarta alaabada Addis Ababa iyo Jigjiga isku mid ma xeerka dollarka Addis Ababa iyo Jigjigana waa isku mid waay marka dabarka ha laga furo dadka Soomaalida ganacsatada iyaga dollar keeni bangiyaal dollarna ha loo fasaxo cuntada noocay rabaan ha keenaan dawladda muxuu ahay deegaankuna karti ha u yeelatay in la xadido cuntada qiimaheeda iyo muxuu ahaay suuqa waxay ka noqonayso muxuu ahaay jantaa rogan ayna noqonin marka meesha dhowr hagarood baa iska saaran qolo inaga meeshan hangoolo ah oo inaga hangoolo inala hor fadhida iyo qolo kale oo muxuu ahaay duruufaheena baan xisaabin inay duruufaha qowmiyada kale iyo dhaqamo kale iyo adhisabuun duruuftooda garanaysa oo bangiyada access u leeyahay cuntada la soo dejinayo oo dawladdu ay subsidy ay ku samaynayso marka dadka Soomaalida lafahoodiina ma haystaan loomana hayo marka qoladanna
waxa weeye dadka Soomaalida inuu ka tashado weeye shacabkeeni dhibaato badan baa gobolka City ka taagan dhibaato abaareed baana haysa dhibaato dhaqaale ayna hayso iyo suuqyada iyo bahalkii gaaska hadda ka hadashay gaaska inuu jigjigana in ka noqdo Addis Ababa ka noqdo madowba maya in la waayo maxaa u wacan maamul xumo weeye inuu gudbo maamul xumo weeye dadka Soomaaliyeed inay iyaguna inay hantidooda ay dusiyaan maaha oo dadka lacagna dibadda ka raadiyaan jigjigana baqtiyaan taana ganacsataduna ku khaldan tahay ha yeeshee waxa weeye waay maxaa waxaanoo budhiya ciidan iyo islaantii ruuxi wax ku qora Facebooka waa lagu soo boodaya booyadaha iyo shidaalkii maxaa loogu soo boodi leeyahay waxa weeye meesha dhishu ka daadinaysa waa la arkaa dadka Soomaaliyeed qolada wiilasheena xukuumadda joogan waxay la quman dadka lama nacas xaadho ilaa kharaarka u dambaysa lama wado waa 3 sano oo fursad haysanay oo tashan karay oo go'aan meel ku wada qaadan karay oo fursad fiican ah jirtay kama aydan faa'iideysanin Soomaaliyeedna talaabo hore uma qaadan idinkuna wanaag iyo madaxnimada leadership kama aydan faa'iidin waa la isku dambaabay ayara dadka Soomaaliyeed fagaaro ku tashada u diyaariyay idinkuna macasalaama dhaha oo ka nasta sida hadayna noqonin iyadoo qoor xun bay iman doontaa waa ma santahay afayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya barnaamijkii 10 daqiiqo baa inoo haray 120 hal saac iyo 20 daqiiqo waad u dulqaadateen dadkiini faraha badan ay idin daawanayay sidoo kale su'aalo badan oo community ah qof cala shakhsi la idin weydiinayo hoostaalo kama gaarno maadaama uu barnaamijku ay inagu badan yihiin gudoomiye Mubaarak ku soco adigu aragtidaada sixir bararka xaaladda Soomaalidu halkay marayso iyo waxa halka ay loo gudbi karo waad maqlaysaa cadaan hirmooge afayeenka ONLF iyo Sheekh Ibrahim Dheere waxay halka u arkayeen iyo waxay soo bandhigeen adigu maxaad ka bedelaysaa maxaad ku raacsan tahay maxaa xal ah sidoo kale waad arkaysay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida madaxweynaha wasiirada iyo sidoo kale hay'adaha qaabilsan arrimahan waxay soo bandhigeen barnaamijyo looga gudbay sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in ilaa xaaladdu u dambaysa isbedel laga samayn doono mushaharka loo kaabi doono shaqaalaha sidoo kalena bangiyada wajaale ay suurtagal noqotaba in xilliyada qaar la xidho ee laga yaabin loo tirinayo inay sarifka geeyaan maxaa xal ah muxuu salka ku hayaa muxuu yahay waxa jira horta sicir bararku ma aha sida hadda ay loo dhigayo ma aha wuu fara badan yahay oo externalna wuu leeyahay dibadda dhibaatooyin ka yimaada way jiraan kuwa gudahana way jiraan xukuumaddu qayb bay ku leedahay muxuu ahaa dhibaatada in la xalliyana dee mas-uuliyaddeeda iyada hadda haysa waxaana leeyahay way ka gaabiyeen oo arrintaa iyada gaabis baa jira horena waan uga hadlay haddana dee waan leeyahay xukuumaddu inay dee tallaabooyin qaado waa laga maarmaan oo ummadda ay la tashato ayna noqonin un anaa talinhaye waxaan ku taliyay un hala qaatay noqonin in lala tashado waa laga maarmaan ta kale waxaan odhan lahaa xisbiyada laftigoodu meesha un ha ka tagaan yay noqonin bal ha keenaan barnaamij isaga laftigiisu xal noqon karaya oo ummadda lafteeda leeyahay warkana xal ee xalkaasi ha lagu dhaqaaq laftooda inay keenaan xisbiyadu aad bay u fiicanta oo muhiim u tahay laakiin anigu waxaan soo jeedinayaa dhibaatadan waa la arkaa saameyn badan bayna ku yeelatay muxuu ahaa dowlad deegaanka Soomaalida shacabkeeda waxaana ugu sii daran kuwa barakacayaasha kuwa danyarta kuwa shaqaalaha iyo xitaa kuwa ganacsatada laftooda saameyn ku yeelatay marka arrintaasi in si wada jir looga tashado oo bulshadu intay isku timaado la yidhaah maxaa wax lagu xallin karaa waa aqoonyahanku ay ka hadlaan bulshadu ay ka hadasho oo xal muxuu ahaa la raadiyo waa lagama maarmaan ta ugu dambaysa haba noqoto haddii ay dhibaataduba ay tahay xalna ayna keeni karin xukuumaddu inay meesha banayso markaa haba noqoto option kale laakiin anigu waxaan leeyahay oo ka horreeya intaasba in ummaddu ay isku timaado danaheeda ka wada hadasho waxyaabahan dhibaatooyinka jira waxay leedahay aasaasiyay leedahay wixii jiray oo horena wixii laga qaban kara laga qabto wixii dambe ee saameyn ay yeelan kartana wixii loo diyaarin karo qorshada loo diyaariyo anu intaasaan kusoo koobi lahaa waa mahadsan tahay gudoomiye Mubaarak daawadayaasha xasuusin gaar ah halka aad sida tooska ah noogala socotaan barnaamijkan falanqaynta tooska
وقرحي ميديا أنا قلنا وحنا مصطفى محمد علمي sidoo kale falanqayn toos ah qorxay media kala socotaan waxaan u wareegayaa hal su'aal gudoomiyo oo waxay noo hadhay hal daqiiqo oo hal mar ayso gunaanadkii oo xaaladda gobolka city oo cakiran abaar colaado iyo sixir bararkan oo saameeyay ayaan min hal daqiiqo gudoomiye Sheekh Ibrahim Cadaani iyo Mubaarak siin doona waxaan u soo wareegayaa aqoonyahan caqiil soo dhaw aqoonyahan arartooda waad arkaysay iyo sidoo kale waxyaalaha jiraba waxa ay ku saleeyeen ONLF iyo xisbiga FEB dhaliil waxay abaareen xukuumaddu in ay meesha banayso oo ay xal u tahay maadaama ay fulin waayeen say hadalka u dhigeen xukuumadda sidoo kale waxay sheegeen halbeegyo waxa laga gudbi karo Sheekh Ibrahim Dheere wuxuu soo hadal qaaday 3 sano wixii dhacay iyo Cadaani sidoo kale uu soo hadal qaaday sidii sicir bararkan u saameeyay bulshada Mubaarak wuxuu sheegay in xukuumadda la garab ay hal ka keento hawlahan sidoo kale option badan oo lagaga bixi karno xukuumadana wuxuu sheegay inay ka gaabisay adigu maxaad aragtaa dhaliishan xukuumadda ay u soo wada jeediyeen saddexdoodaba ay ah inay ka gaabisay saddexdan gudoomiye ku soo dhaw arartaada waa maasantahay muudka ka bax aqil adoo maas sorry xukuumadda horteeda talada dalka haysa iyada hoggaankeeda marka wixii xumaada waxaas ama kor ha ka yimaado ama gudaha ka yimaado iyagu baa lagu dhaleelay iyagu baa loo qabsan marka horta xukuumaddu mar walba dhaliisha waa inay diyaar u ahaato dhaliilaha loo soo jeedinayo dee qaarna waxay noqon karaan qaar wax ka qaban karayaan oo iyagu ay wax ka qaban karayaan waa inay ka qabtaan qaar ay ka jawaabi karayaan oo fasiri karayaan waa inay fasiraan waa inay xukuumaddu isdifaacin waxyaalaha xukuumaddan dowlad deegaanka caan ku tahay waxaa ka mid ah dhaliiluhu waa qaybo talooyinka ka mid ah markii lagu dhaliilayo ee lagu leeyahay waxa maadan qabanin waa nooc talo lagu soo gudbinayo weeyaan marka waa inaad tala ahaan u qaadato iyagu dib isugu laabtaan oo isweydiiyaan dhaliishaas jirta dhaliisha ay baaraan waxa loo soo jeedinayo haday dhaliishaas dhaliil xaq tahay inay wax ka bedelaan oo ay wax ka qabtaan hadayna xaq tahay inay cadeeyaan oo maartay sharaxaan laakiin inay isdifaaciyo markii la dhaliilay ay u qaataan waxyaalo kale taas kuma shaqeyso adduunka dhan xukuumadda dhakada masaal looga saaray waa carab ka saaran yahay shacabku ka saaran yahay marka waa in xukuumadda caalamka u eg waa inay ahaataa waxyaalaha ay xukuumaddan ka ceebaysantahay kale waxaa ka mid ah inta badan way jawaabtaa maxay ku jawaabtaa waxaa laga dayrini oo laga calaacali abaaraha soo socda roob la'aan baa jiraysa waxyaalaha dhici karaya oo iska fadhiyayaan hadda wadageed abaarahu in muddo badan laga sii dayrinayay oo lacagta hadda la lahaa doorasha ku 200 milyan in lagu diyaar garoobo ay ahayd oo laga sii diiray xukuumadda wax tilaabo mayna qaadin markay dadkii baaba'ay oo xoolihii baaba'een oo ummadii ay baaba'day hore xeeroobeen bay shirkad la galayaan muxuu ahaa heshiisiyo caafimaadkeedina oo way ku naxayaan marka sidii abaarti beritoon ay soo noqon kale waa shaqooyin ay mar hore qabsadaan sixir bararkan xaqiiqada waxa weeye markaan sixir bararka dib ugu soo laabto meel walba ka jira waddankan aan noo sixir bararku ka jira laakiin xukuumadda intay meel soo istaagtay waxba kama qaban karno iyo annaga sabab uma nihid iyo meelo kale ka timid iyo waxaas xaggaas ku xirtay qoladaas hawl u taalaba maya hawl baa uga taal hawsha inay qabsadaan bay waddankan aan joogno sixir bararku qiimuhu wuu koraa wuu dhaqaaqaa laakiin dawladdu way la tacaashaa waxyaalo fara badan oo dawladda ka qabataa jirta mujtamaca iyo bulshada lafteeda ayaan isku si aynan ula dhiilgarinin oo maartay oo qaarna dad badan baahan qaarna dad isla markaba ay saameynayso oo markaba dhulka ku dhufanaysaa jirta marka xukuumadda hawlba oo taala hawshada waa inay qabsato wey sixir bararku meel walba ku jira dunida waxaan marka leeyahay xukuumaddu sixir bararkan haddaa ku koobnaado warkayga ku koobo xukuumaddu waxaa la sheegayaa hadda jigjiga ama dowlad deegaanka iyo Ethiopia inteeda kale inay kala duwan yihiin oo dir dabada arkaysa inta inoo jirto iyo jigjiga kala qiimo duwan yihiin arsaba iyo jigjiga kala qiimo duwan yihiin hal kastan baa maamulo hal dawlad bay ka wada tirsan yihiin hal system bay wada hoos yimaadaan waxa kala bedelaya waxba anaga nagu gooni ah wixii anaga nagu gooni ah oo dawlad deegaanka Soomaalida ku gooni ah waa inay dawladdu baadho markay ogaato sidii waxa looga hortagi lahaa wax looga qaban lahaa waa inay talaabadeeda qaado waxyaalaha laga maarmaanka u ahaa muxuu ahaa inay arrinta wax laga qabto waa inay la timaado wixii sababay inaan anagu ka gooni ahaan wax lagu gooni ahaadaan waan cid kale iska dhaafay adduunka iska dhaafay Ethiopia xitaa inteeda kale wax lagu gooni ay wax lagu gooni u jiro arrinta waa inay wax ka qabataa wixii aan gaari karin oo hadda dunida lagu wada saameynay cidro ma haysato dadku indhay qabaan aqoonna way leeyihiin adduunka ka warhayaan wixii xukuumadda lagu dhaliilayo waa wax maangal ah oo in lagu dhaliilo mudan wax aanay mudnayn ayna lug ku lahayn oo aan waxba ka qaban karin iyo waxaan oran midna cidro ku dhaliilamayso marka dhaliilaha
روح بني آدم كو روح عاقل كو محوها هجانيه مركل ليش نفتي سلا هذا اسم الدفاع لكن ده تروح الجبنية يعني وليش يوحي الله شيء كجبنية يعني حقيقة وحنا بوقت السوقتها حكومته waxaan soo jeedinaynaa waxa annaga nagu gooniya in dunidana kaga bedelanahay ee nagu gooniya in Ethiopia inteeda kaga bedelanay dawladda kaga bedelantahay inta waxa ka qaban wixii kale inta dheeraada ee ay waxba ka qaban kariyada awoodeeda ka baxsan dadka annagu aan ku jirnay xisbiyada macad cidna uma haysatay inta mas'uuliyadeeda wax ka qaban inta hadday gabto oo inta tiraahdo kama qaban karayo ama si practical ah muuqda ay u gabtay waxba qaban kari weydo وتلاقون النقطة أود إليه نقاط هي ما هي نقاط كروايات أما مسي يعني عن هبونا إنه قاضان واحد لما تروح شقادي الله دري كل دريستي شقادي روح الله دري سقولي مركو كل دريستنا شقادي مسي وليك حقيقة واسطة وحافي عنك وحافي عن وحبي عن القرآن أنا القرآن ماشي اسكجت كتير اسكها جاي تشسو واحد سبب يا إن أي ماشي كتب تذكر الله يروي لا تلنا waxay ummadda ugu jeceshahay oo aniga kamid ah ugu jecelahay maanta in iyagu isxagaajiyaan ummadda rabitaankeeda ku shaqeeyaan galdaloolooyinka iska waxayaan musuqmaasuqa la dagaalamaan yani shaqo xumada la dagaalamaan qabyaalada la dagaalamaan hogaamiyaal fiican wanaagsan oo Ramadan baan ka jeclahay in mar labaad anagu aanu gallo wax la yiraahdo muxuu ahaa bahalkii loo jiray kala guur xilli kala guur xukuumad markii meesha ka baxdo guud kala guur marka xukuumad wanaagsan oo shaqadeeda garanaysa oo dhaliilaha qaadanaysa oo dadka la tashanaysa oo ummadda danteedii rabitaankeeda ku shaqeysa intay awoodi karto ee suurtagal intay awoodi karto suurtagal ku shaqeynaysa oo shaqadeeda qabsanaysa marka la helo ummaduna way garab istaagi cid hadda kala guuriya hal la bedeliya hal caydaan oranaysa ma jiro laakiin xukuumaddu markay shayl garowdo la xukuumaddu waxay xukuumadeed mujtamacan anagu aanu ka tirsanahay ee wada leena ee xukuumaddu tay hogaamiyi awoodii iyaga haya dhaqaalihii iyaga maamulaya amnigii iyaga haya qalinkii saxiix iyaga haya sharciyada iyaga haysta waxaas oo dhan sharci bay ku joogaan hadday intaa gabtay ummadda u khidmeyn weydo hadda in lagu yiraahdo meesha iskaga taga waa dow inay ka garaabaan iskaga tagaan waxa doonta laakiin haqa shaqadeeda ha gartaan dhaliilahana talaha u qaataan ha ka faa'iideystaan shaqadooda ha qabsadaan intaas aanu ku soo koobina baalka la yiraahdo sixir barka waxaan marnaba ku celinaya war bal inta dawladda deegaanka ku gooni abalo inta ku gooni dawladda kala la qabiilada ku gooni keenayna hal ogaado wax laga hortago wax laga daba tago waxa hadda dhibaatada ay geystaan wax laga qabto intaas aan ku soo koobaa mahadsan waa mahadsan tahay aqoon-yahan caqiil aad baa u mahadsan tahay soo jeedin qurux badan baa soo jeedisay barnaamijku inagu dheeraaday 2 daqiiqo waa ku darmatay laakiin su'aashan city ma aha su'aal laga tagi karayo shacabka city Sheekh Ibrahim Dheere su'aasheeda aad ula socodaan kugu bilaabaya 1 daqiiqo 2 daqiiqo ama 1 daqiiqo 30 ilbaqsi su'aasha ku dulmar barnaamijkana saas buu kaaga tagay mar dambe kuuma soo noqonayo la soco barnaamijku markuu dhamaado waan iska soo xidhaynaa 1 saac iyo 20 daqiiqo dana badan ayaad lahaydeen inaad danihiina bulshadiina aad inta waqtiga u bixinaysaan baad u luminaysaan aad baad u mahadsantiin waqti lumina ma gudoomiye gobolka city waxaa ka taagan abaar roobkii si fiican uma helin sidoo kale waxaa taagan colaado soo noqnoqonaya waxaan ogeyn dan la helay agteeda maalin dhaweeto oday 80 jira ayaa oo nagu dhintay dagaalkuna wali uu kaga furan yahay candhuf cadaytu iyo sidoo kale meelaha ay isku haysteen qoomiyadda canfarta iyo qoomiyadda Soomaalida isku haysteen maxaa shacabkii Soomaaliyeed xisbiyada siyaasaddu shacabka Soomaaliyeed halka ku dhibaataysan xisbiyada siyaasaddu maxay door uga qaadan lahayd ilaa iyo intuu dhacay isbedelku shacabkaas abaaro gaajo colaado aan kala joogsi lahayn baa ku socdaan say wuxuu jiraan gudoomiye Sheekh Ibrahim muudkana iska qaad muudka iska qaad gudoomiye muudka iska qaad codkaaga lama maqlay muudka qadiyadda gobolka city qadiyad shalay bilaabatay maaha waa qadiyad horeysay waana qadiyad aan u aaminsanahay in federaal iyo cafarba ay u bahoobeen qadiyad saan inagu u aragno inaga iyo cafar kaliya maaha waa qadiyad la xiriirta istiraatiijiyada wadada tareenka oo laga ilaalinayo dadka Soomaalida inay wada dhaxmarto qadiyada markii la gelayo waxay u baahnayd in filosofiga ama aragtida lagu galo laakiin nasiib darro dad aan siyaasaddu u bilownayn baa waxay u fahmeen inay tahay dalxiis meel lagu tagayo markaas ay go'aamo degdeg ah qaateen natiijada ka dhalatayna waxay noqotay in ciidanka new booliskana ku baabao shacabkayga meesha deganaana in qaxday iyo in la dilay iyo in dhimato ay noqdaan maanta marka waxay qayb ka tahay mashruucaasi mashaariicda ay dawladda deegaanka ku fashilantay kaasay ku fashilantay doorashadii bay ku fashilantay
abaarihii bay ku fashilantay sicir bararkii bay ku fashilantay waxba inay ka qaban karin bay sheegtay marka sitina lama xallin karo sicir bararna lama xallin karo iyagaa sahlan oo la xallin karaa waxaan leeyahay baarlamaanka deegaanku ha fadhiisto xukuumaddaana kalsoonida ha kala noqdo intaasaan xalkeedu halkaasuu ku jiraa meesha la yidhaahdo xisbi siyaasadeed baa tihiin heer federaal awood ku leh xisbigaagu waa xisbi siyaasadeed heer federaal awood ku leh waxaad samayn kartaan gurmad inaad ka fidisaan idinkoon xukuumadda u maraynin gobolka city habab kale aad ooga fidisaan baad samayn kartaan xisbigaagu waa xisbi siyaasi ah oo heer federaal wax ka gooya xukuumaddan dowlad deegaanka soomaalidu hadday ku fashilantay idinkuna ma la odhan karaa waad ku fashilanteen in aad halkaa kaalin ka qaadataan xisbigana waa xisbiga keliya ee jigjigana ka soo degay maamulkiisa u sarreeyey oo mustafa la fadhiistay haddana samaara ka degay ee madaxweynaha cafarta la fadhiistay mar haddaadan maamul gacan ku haynin waxaagu waa wacyigelin iyo hadal iyo walaalow iyo kala jooga cidda awoodda gacanta ku haysaa saxiixeedu shaqaynayaa annagu madaxweyne mustafana waa la fadhiisanay ra'yigannagaan u gudbinay madaxweynaha cafartana waa la fadhiisanay shacabkanagana markii la leynayo waa u gurmanay maraanu raashin gurmadkooda ka qayb qaadin maraan qoraal iyo mowqif kaga qayb qaadanaba axsaabta siyaasaddu wax ma kala jari karaan ka badan hadal iyo tala bixin ciddii xilka haysay ee ummadda loo dhaariyey baa ku fashilantay 4 sanaana maraynaa 4 sano kale oo tijaabo ah haddii haddana lagu galo waxaan ka hadlaynaa 3 degmo oo cafar ee dhul kala la qaadan doonaa 3 degmo oo city oo la qaatay baan ka hadlaynaaye degmooyin kala la qaadan doonaa sidaa darteed waxaan oo dhan sababay haddaan wax laga qabanin oo marba qadiyadu qadiyadan maxaan ka qabanaa ama xisbi siyaasi oo waxba gacanta ku haynin yiraahdo muxuu qabtay waa jahawareerkii ka mid tahay maanta gobolka Soomaalidu wuxuu sugayaa baarlamaanka Soomaalida deegaanku waxa uu ka yeelo xukuumad maanta ma joogo xukuumad wax laga sugaana meesha ma joogto baarlamaankaas aan isha ku haynaa afhayeenka baarlamaankana mas'uuliyad baa u taala marka la leeyahay baarlamaanku ha kulmo waa xaaladahan oo kale markay mushkilad dhaqaale ku haysato oo mushkilad amni ku haysato oo mushkilad bulsho ku haysato oo mushkilad siyaasadeed ku haysato baarlamaanku inuu iska fadhiyo maaha isagaa la soo doortay xalka ani waa ii caddahay iyagaa fudud ee meesha ha dhaafaan intaasoo dhanna xal baa loo helayaa hadday meesha dhaafaan mooshinna ha laga keeno waa mahadsan tahay gudoomiye sheekh ibraahim gudoomiyaha xisbiga feeb ayuu ahaa afhayeenka onlef cabdiqaadir xasan biix cadaan hirmooge xaaladda gobolka city iyo shacabka city xaalad adag bay wajahayaan onlf door ma ka qaadatay maxay ooga qaadan lahaday door haddii dowladda federaalka xidhiidhka ay la leedahay shacabka gobolka city muuna ka mid ahayn shacabka faraha badan ee xisbiyada siyaasadda heer federaal nabadda loogu doonayo maxaa dhacay shacabka city abaaro colaad xukuumadda un in la dhaliilo maaha idinku door siyaasadeed oo muhiima baad ku leedihin maxaad oga qaadan lahaydin doorkaas bismillah door fiican baan ka qaadanay bilowgii inaan canfar iyo Soomaali wada hadallaan dabcanay talaabooyin wada hadallaan waan qaadnay markay xukuumadeenu jilaysana waxay yiraahdeen go'aamaanu ka qaadanaynaa aan ku burinayno wixii xukuumadihii naga horreeyay daba dhilifka ay sameeyeen aad baan u soo dhaweynay ku taageer dadweynahan waanu abaabuleen arrinta lagu taageero dagaalada qarxay dagaalada qarxeen garba la tusaa xukuumadda canfarta iyo xukuumadda federaalka iyo ciidan federaal iyo maleeshiya iyo ciidan federaal iyo liyu boolis gobol iyo waxaas ay inagoo inta waan lahayn marka in arrimaha amniga la isgarab ordama waxaan doonaynay waxaan ku garab taagnay xukuumaddeena shacab mowqifkeenana 100 jeer baan sheegnay dadka Soomaaliyeedna u gurmadaan niri markii dambe shacabka Soomaaliyeed hay isdifaacaan waa shacabaan la barin inuu isdifaaco shacabaan la barin inuu maxaa ahaay ka cabsanayo inuu isu gurmado waa shacab ka cabsanaya inuu tashado mushkiladaas taala marka waan ku gubaabnay in shacabka muxuu ahaay galbeedka city aan oohintiisa halkan laga dhigay magaalooyinka Soomaalida laga dhigaysan ee laga diiro oo muxuu ahaay loo gurmado oo dawladda Ethiopiana ama ay dhaxdhaxaad noqoto ama ay muxuu ahaay cidda eed qabanaysa ay kamid noqoto inoomayna dhaxdhaxaad mayna ka ahayn arrinta marka xukuumaddeena maxay ka dhigay dadka waa la jiheeyaa mushkiladda waxa weeyaan
Ethiopia nin bay kursiga keeni fi kulli duruuf wuu rabaa inuu joogo hadii laynagu kaajo hadii laynaga exdo hadii isaga lagu tunto hadii wax laga sheego hadii la amaano hadii loo heeliyo asaga hadii dadka ka adka u leeyahay hadii asaga laga adag yahay fi kulli duruuf inaan joogaan rabaa deedna wax badan baa kaa tagay marka yaa kaa tagay marka waxa weeye galbeedka city dhibaatada abaartay la mid tahay dhibaatada waxay la mid tahay sicir bararka dhibaatada wada tashi la'aanta Soomaaliya la mid tahay marka waxay u baahanahay dadka Soomaaliya hadaan nahay gobolka city talo inaga rabaa abaartu talo inaga rabtaa waxa talo inaga rabtaa muxuu ahaa sicir bararka iyo nolosha dawladnimadkeena iyo Soomaalinimadkeena iyo ishaysadkeena iyo mustaqbalkeena iyo doorkan Ethiopia kala talo inaga rabo marka in منافق هايبوكراسي منافق نمضي ماذا حوينا أنا حزبيين أتلاها هايو أنت نقول العليو ونسكر رحمة توسنه وحوي إن الدولة دي إنه كلا تمدون إنه لكن ننا قريها إنه هجاتين معي هذه حكومة هجاتين ويدو هذا إنه سميسن وينه هذا الصومالي هانو تشن وينه هذا قلبيت كسيت بقى مكجار وينه هذا قرب استهاج وينه هذا موقف أن يلون وينه هذا أبارته وحكي قبل وينه هذا حلم وينه هذا حكومة إنه حكي قبل وينه عندنا أنت اعتمادنا إنه توسين ميس دولة إثيوبيا نبرنا عن سلا يلا اطلب بريمة النلاشة ضدك قصب ابن آدم كون نلاشة قصب وكوب بدلا تاريخ ذا يا ظروفته مقالة يا ظروفته أمنية يا ظروفته سياسي جابه يا ظروفته فيزيكال كي حتى بورها يا بدل بدلا كده منها واحد ابن آدم كصاب سنة marka waxaan leeyahay shacabka Soomaalida waxa la gaaray maanta maalinka aan tashan lahayn taladeena aan meel ku gaar lahayn tala la'aan meel laguma gaarayo ma soconayso cidna inaguma maqno xukuumaddu kuma filla talaha iyo aayaha dadka Soomaalida hoosaasin weeye 30 sano hoosaasin bay 30 sano hoosaasin bay haddana sidii weeye weliba waxay leeyihiin waxay horumarka dadka Soomaalida yayna jecleen shirkii wada tashiga uu ka socon waayay oonalaf way ka halgami laadahay xisbiyadu way ka dhaqaaqi laayihiin wax garadka Soomaalidu kama tashanayo deer waa ragaad weeye ragaad bay noqotay xukuumadda iyada dadka meesha ay dhiilahay hooyo lacagtan tashada hooyo kuraastan ku tashada fikirkiina soo jeediya nala taliya idinkuna tashada dhiilaayeen yani lama tashanayo waa ma santahay afayeen waxaad sheegtay in arinta ugu badan ay tala la'aan tahay wayna u eg tahay laakiin dhaliishaas ayaka iyo xukuumadda iyo idinku aqoonyahanka Soomaalida inaad dib iskugu noqotaan bay aad idinku baaqayaan idinkii xukuumadda Mubaarak baan aadayaa gudoomiye Mubaarak gobolka City arinta ka taagan waad la socotaa abaaraha colaadaha barnaamijka gunti iyo gabagabadii barnaamijkan tooska ee qoraxi media ka baxaya ayuu marayaa waa ku maasan tahay waqtiga badan ee nala joogtay su'aashii u dambeysay baan ku siinaynaa arintaas adoo soo koobaya waad maqlaysay ustaad Sheekh Ibrahim iyo sidoo kale afayeenka ustaad engineer Cabdiqaadir Xasan Biixi Cadaani Hirmooge adoo soo koobaya xalku muxuu ku hayaa caqabadu maxay tahay maxaa shacabka siyaasiyiinta inagoo xukuumadda iyo siyaasiyiinta oo isku duuban aragtidan shacabka Soomaaliyeed ee dhigooda iyo gaajadu 7 qof ay ugu dhimatay iyadoo xaaladda adag ay ku jirto maxaa loogu gurman lahayn idinka oo siyaasiyiinna maxaa door uga qaadan laadiin waa ma santahay xaaladda gobolka City galbeedka City kolley waa arin adag dagaalkana waa dagaal muddo socday oo ilaa 4 sano baa muxuu ahaa socday runtii sida loo abaaray iyo sida xalka loogu raadiyey si istiraatiijiya ma ayna ahayn hadda ka hor ciidan badan baa ku dhammaaday dhibaato badan baa ka dhacday oo deegaanka iyo dadkaba soo gaadhay waxaa dhacay muxuu ahaa barakac baa la sameeyey magaalooyin baa la gubay federaalku runtii marka laga hadlo dhexdhexaad kama aha sababtaa waxay ahayd inay xal keenaan rasmi ah dagaalkanna waxaad moodaa canfurtu kolba inay soo laba kaclaynayso iska badaa kuwa hore ay haysatee waxay rabaan hadda inay meelo kale cusub ay ku qabsadaan shacabka galbeedka City dhibaato badan baa haysa abaar baa haysa dagaal baa haysta runtii macluul bay ku jiraan dadku xukuumaddu way ka gaabaysaa waan ku dhaliilayaa arrinta iyada
sidii la doonayay muxuu ahaa loo marin maalin waxaa yimid madaxweynihii canfartaa yimid dee waxaan filaynay muxuu ahaa in heshiis laga gaadho oo ummaddaasi ay hesho xal waara hesho laakiin waxay keentay inay dagaal horle muxuu ahaa ay bilaabmaan waxaan marka soo jeedinayaa bal marka ugu horreysa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan dal iyo dibadba dadkii waxay u dhammaanayaan macluul bay u dhammaanayaan barakac bay u dhammaanayaan in lala gaadho gurbad dhinac walba ah ama nolosha ha noqoto muxuu ahaa inay xukuumadda laftigeedu in gurmed degdega la diro oo wax laga qabta arrintan lama dagaalami karaan muxuu ahaa shacabku dowlad kale iyo ciidan kale lama dagaalami karaan shacab baa shacab la dagaalami kara laakiin waxa dagaalamaya waxa weeye waa ciidankii canfarta weeye taana waxay dhibaato ku tahay dee muxuu ahaa iyadoo ciidankii canfarta uu shacabkii laynayo in ciidankeennu iyo xukuumaddeennu ay ka aamustaan oo tallaabo la qaadina dee waa arrin muxuu ahaa iyadana ceebteeda leh waxaan leeyahay anigu ummadda Soomaaliya ha u wada istaagto dadkooda walaalaha sidii loogu gurman lahaa ama xab dhaqaale ha noqoto ama gurmad kaleba ha noqoto xukuumadduna tallaabo kama dambays ha qaadaan iyagoo kaashanaya federaalka haddii federaalka xitaa uu soo farigeliyo federaalka ha la kaashadaan oo muxuu ahaa meeshan xal rasmi ah laga keeno taasaan kolley kusoo koobi lahaa waana laga maarmaan in muxuu ummadda u istaagaan oo sida hadda xaaladdu ay tahay si ka bedela loo wajaho dadkii wax gurmada ma helayaan nolol ma haystaan abaar baa haysa dagaal baa ku socda maalinba meel baa la qabsanayaa dee maalinka dambe dirta imaanta odhanba haddii sana ku socoto marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliya ha u istaagaan arrintaa waad mahadsantihiin waa mahadsan tahay guddoomiye mubaarak waxaan haddana siinayaa barnaamijku maadaama guntii iyo gabagabadii marayo caqiil soo dhowow aqoon-yahan xaaladdu halkay marayso waad aragtaa iyo sidoo kale se wax u socdaan Soomaalidu door intee la eg way ka qaadan weyday door baaxad weyn xaaladda gobolka City waad aragtaa aqoon-yahanka iyo shacabka Soomaaliyeed maxaa kaga aadan arrinta gobolka City maxaana kaaga soo baxay hadalladii guddoomiyaha adoo barnaamijka waqtigii fursaddii u dambeeyey aad helaysid waad mahadsan tahay horta arrinta gobolka City waa arrin soo cakira oo mujtamaca bulshada in badan oo kamid ah ka madow waxay loo soo noqotay dawladdu tallaabo lagu qanco macna leh oo mid siyaasadeed ama mid ciidan iyo ma qaadayso dadka nimanka aan dariska ahayn ee dadkii dhibaato fara badan bay ka iyaga dawladahan bay la dagaalamayaan marka arrintaas horta mar walba mugdi fara badan aniga kula hadlay mugdi fara badan kaga jira ugu horreyn horta waxaan ku baaqayaa oo soo jeedinayaa dadka intii Ilaahay wax siiyay meel kasta ha joogaan dadka City ku nool ee colaaduhu ku socdaan dhibaatadan abaarta ee jirta iyo sicir bararka saameyntiisa iyaga colaad baa u dheer sida daraadeed waxaan ku baaqayaa oo soo jeedinayaa ciddii wax heli karto oo dhanba inay meesha u gurmato inta kadib waxaan la isleeyahay City dhibaatada ka taagan inay soo afjarmi weydo waxa sabab u ah karti darrada dawladda deegaanka waa karti darro xaddi dhaaf waxaana daawo u ah oo hawsha iyada dhibaatada meesha ka xal lagaga gaari karaa in ay mowqif iyo go'aan geesinimo leh oo xataa riskigiisa la qaadanayo in dawladda deegaanku gaadho kuna dhaqaaqo mid siyaasadeed iyo mid gacan ka hadal labadaba inay ku dhaqaaqo oo yani dadnimo iska baaraan ay go'aan cad mowqif cad oo fulintiisa wata inay ka qaataan taas daawo ah haddii ayna arrintaa la helin yani waxa weeye meeshaas xaaladeedu waxay gaari doontaa xaalad aad iyo aad u qaab daran oo hadda midda maanta taagan ay wax yar noqon doonto guud ahaanna waxaan idiin sheegayaa dawladda deegaanka Soomaalidu colaadaha xuduudaha iyo kuwa gudaha labadaba xalkooda way ku xunta colaado badan oo ama xuduudaha Soomaaliya iyo dawladda deegaanka Ilaahay ka dhacay ama gudaha dawladda deegaanka ha ahaatee ayay si soo ugu maratay iyagoo ku dhex jira oo gacanta ku haya oo xalkeedii waan xalinaynaa ku haya dadka iscunaan oo intaas oo qof ay ku dhimaan ay ku baabeen waxbad la iskala daalay dadka islaaya iyagoo gacanta ku haya iyo maal walba xuduudaha laga soo gudbaya dawladda deegaanka waddo masaakiina shacab la leeynaya dawlad baan ku dhex jirta meesha inta waxa dheer dadkii xitaa shacabka ay meesha joogay dawladda deegaanka joogay laftoodii waxay ka cabanayaan ciidankii dawladdu ay lahayd ee booliska meesha loo diray kacday laftooda dhibaato meelan marka arrinta colaadaha ee ama gudaha iyo xuduudaha intaba waxyaalaha sida waaweyn ay ugu fashilan tahay dawladdu
ayay kamid tahay ee kaaga darane aynan weligeed ka garaabayn bas la qumayin oo soo taagay waxaan leeyahay dawladdu sidan haysu dhaaf qolaadahan iyo dhibaatooyinka iyo arrinta ugu mudanta galbeedka city go'aan kama dambaysa oo dawladnimo go'aan kama dambaysa oo dadnimo iyo bahal in loo jiray awood ha isticmaasho arrinta go'aan laga gaarayo hadday arrinta dawladdu go'aan ka gaari weydo mujtamacan caadiga iyo ururada siyaasadda afka bay ka hadli karaan awoodna ma haysta wax badan ay ka qaban karaan ma jirto wax kaliya ka qaban karaan oo muhiimsan waxa weeyaan inay mawaaqiftooda cadeeyaan inay talooyin soo jeediyaan maladoo fiirso iyo inay wixii ummadda lagu taakar dagaalada ay saameeyeen ee abaaraha iyo sixir bararka loo dheeriyo wixii lagu tar kareen lagu taro intaan bay awoodi karayaan oo yani golayaal fara badan arrinta kaga hadlaan laakiin tillaabaqaadka dawladda iskale waa mas'uuliyadeedii horena ugu fashilantay haddana waxaad moodaa aynan wadadeediiba haynin maalin waxay madaxweynihii halkiiba yimid meesha la yidhaahdo halka yimid isku marmaraayo arkayo isa salaamay maxaa lagu leeyahay nin dhul badan oo Soomaaliyeed iska haysta nin soo socda wali ummadii laynaya nin yani maxaa lagu leeyahay waa bahdilaad ummadda lagu sameeyo weeyaan maba garanayaan mas'uuliyadooda iyo maartay arrinta kaga aadama ma garan waxa jira goobo ay tahay inaadan istaagin ilaa waxyaalaha qaarkood ay fulaan maxaa lagu leeyahay arrimaha way ku fashiliyeen dawladdu sida ay soo dhaanto dawladda rabta wax ka qabato dadka talada isoo jeedinayna ha qaadato ururada iyo shacabka dawladdeegaanka iyo macal inta badan oo dhaqameedyadu way cadeeyeen mowqifkooda arrinta ku aadan waana dhageysanay runtii shacabkuna ilaa hadda halkii ka taagay meesha waxa ka maqan oo aad wariba u qaab daran kaalinka dawladdu kaalinkeeda ha gasho ceebahan faraha badan ee jihooyinka kala duwan ka imaanaya dhaliilahan dawladdu saaska dhalo dawladnimadeeda iyo roolkeedii iyo kaalinkeedii dawladdu ha qaadato haddii kale waa lagu dhaliin barlamaanka hal fadhiistaa la odhan xulka laga qaadaa la odhan waxaasoo dhan waa imaanayaan dalkii baan wada leenahay oo dadku waa dadka naga mas-uuliyad baan laftanada naga saara waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan caqiil daawadayaasha barnaamijkan tooska oo la socday oo barnaamijka waxaa idinla xidhiidhinaya anigoo ah mustafa maxamed cilmi sidoo kale barnaamijka waxaa marti igu ahaa gudoomiyaha xisbiga feeb sheekh ibraahim dheer iyo sidoo kale afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya jowxo cabdiqaadir xasan biixi cadaani hirmooga iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka sixitaanka BB Mubaarak iyo sidoo kale aqoon-yahan caqil sheekh anigu waxaan ahay mustafa maxamed cilmi waxaad si toos ah noogala socoteen warbaahinta qoraxay media oo barnaamijkan si toos ah idinkala socodsiinaysa studioga sidoo kale barnaamijyadan waan idin soo badin doonaa hadduu alle awoodda la yidhaahdo madax kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan ayaad ku qaadan doontaan oo lagu faaqaado digi doona qoraxay barnaamijka sii shirgareeya waad mahadsantihiin